mahadsantihiin kulleyba casharadeenaan iska bilaabanaynaa waxaan filayaa kulleyba qoridda warbaahinta in wax loo qoro oo mid aad muhiim u ah marka haddii loo baahdo kaamarada waa iska daarnaan kartaa haddii qadka uuna dhibana insha allah waa iska damin doonaa codka keliyaan isticmaali doonaa hadda laakiin maybe kaamaradaasaan iska isticmaalayna intii laga gaarayo inuu naga xirmo ama naga hakado bismillah waxu qoridda warbaahinta in wax loo qoro horta waa maaragtay dadka qaar wax badan uma arkaan inay culays badan leedahay laakiin mararka qaarkood wax dhib yar ma aha howl badan ay kaaga baahanaysaa screenka idinla soo share garayn okay broadcast journalism waa wada naqaanaa maxaa la yidhaahdaa waa warbaahinta tii weliba traditionalka ahayd loo yaqaanaa warbaahinta traditionalka marka waa naqaanaa waa raadiyaha tv-ga iyo dhihi jiray laakiin hadda waxaan ognahay social mediaha inuu kusoo biiray oo wax walba bedelay marka nuxurka wuxuu ku saabsanaan doonaa zoom trainingkan broadcast journalism gaar ahaanna sidii aan wax ugu qori lahayn broadcastiga basa inta ku qoran laakiin social mediahana way ku jiraan waayahay okay aan iska leexiyo sawiraan okay qoraalka marka sax loo maamulo waxaa si kale loogu yeeri karaa wada sheekaysi haddii wax la qoraayo qofka wax qoraayo waxaa laga rabaa horta waxaan uu qoraayo qaabku u sheegi doonaa marka Lawrence Sterve oo aqoon-yahanada dhinaca warbaahinta ah waxay ku sheegtay qoraal haddii la qoraayo qofka waxaa fiican sida ugu wanaagsan ee loo qoro qofka uga dhaadhici karaan waa in maaragtay uu noqdaa mid inta badan wada sheekaysi camal u dhamayo qofka marka qoraalkaas akhrinayo ama hawada looga sheegayo ama tv la saarayo ama maaragtay video la saarayo intaasba waxaa looga baahan yahay inuu ahaado qofkii in loo sheekeynayo kale inay noqoto broadcast news of Canada style bookgiisa oo inta badan la raaco dadka Canada wariyaasha noqda ay raacaan waxay leeyihiin muddo sanado ah tifaftirayaashu waxay wariyaashu u sheegi jireen oo ay dhihi jireen ha ii sheeg ha qorin macnaha hadalkan in la isdaba mariyo ayay noqonaysaa hadda waxa waaye ii sheeg waxa iska qorin ii sheeg kee macnaha oo qoraalkaaga markaa qoraysid inaad dhihi kartid oo kale warbixinta tusaale hadday meel wax ka dhaceen oo kale meeshaas wax ka dhaceen inaad qaab sheeko oo kale igu sheegtid simple ma ahan adoo qori lahaa saa u qori lahayd inaad igu sheegaysid ayadoo qoraal ah laakiin sheeko camal ka dhigaysaa okay nuxurka marka intuu ka bilaabana sheegidda sheeko in la sheego warbixin sideedaba qofka wariyaha wuxuu tagaa meel meeshaas waxaa laga yaabaa inuu ka soo arko dhacdo uu soo warinayo dhacdaas waxay noqon kartaa xitaa qarax hadduu noqdo qof walba siduu u sheegayo ayay ku xiran tahay warbixin ururinta badanaa wariyaasha ayagaa soo urursada waxay noqon kartaa qaabo badan kala duwanaa wararka loo soo ururiyaa waxay noqon kartaa in qofka maaragta isagoo meel iska marayo war uu la kulmay ama waxay noqon kartaa in warkii uu la kulmay maahane sheeko dadweynahaasoo iskala sheekaysanaya in maaragtay war uu ka helay ama xog qof kaliya ogaa oo kale si hoose loogu soo dusiyey kadibna waxaa looga baahan inuu wixii inta baaro dabagalo kadibna qoraalkiisa ka diyaarsado waagii hore waxaa jiri jirtay intaan waraysyada iyo waxaan la baranin qofka in wakaaladaha wararka inay warbaahinta ku tiirsanaan jireen waa dhexe kuleyba casharadeenay ku jiri doontaa ayaa waxaa BBC-da nin ka mid ah wariyaashii caanka ahaa oo dhinaca u qaabilsanaa la talinta wuxuu kula taliyey in ay abuuraan wariyayaal wax soo qora oo qoraaladooda la qaato dadkana soo waraysta marka taariikhdaas waxaan uga hadli doonaa marka la gaaro waraysiyada iyo qaabka maaragtay loo soo tabiyo iyo sida loo qoro baakejyada sida loo sameeyo
باكجka waa xirmo dhowr qof codadkooda ama dhowr mas-uul codadkooda ay ku jiraan caddaymo kala duwan iyo shanqaro badanba ay ku jiraan marka marna waa wax soo ururin oo warbixintii in la helo shirar jaraa'ida laga soo heli karaa warka inkastoo wararka shirarka jaraa'id laga helo ay more news based yihiin oo maaragtay intooda badan warkaas aad soo tabinaysid oo war diyaarsan ayuu badanaa noqon karaa shirarka jaraa'id dhibaatadeeda waxaa ka mid noqon karta in qofka wax maaragtay soo tabinaya press waxa waaye badanaa press officer qof macnaha hay-ad wakiilka ah so shirkii jaraa'id uu qabanayay wixii uu asaga rabay kuu sheega the only way marka aad wax uga soo saaran karto waxa waaye inaad waraysi ka qaadid qofkaasoo tiraahdo noo kaadi maaragta waxaad soo saarteen waa garanay laakiin faahfaahin naga siiya sidaasa badanaa la samayn karaa qoraalka markay timaado sida guud waxaan soo ururiyey dhowr nuqul ama dhowr maaragtay nuqdadood aan isleeyahay maaragtay qoraalka guud ahaan wuu ka kaafin karaa marka wax la qoraayo haddaan ku hormarna marka sheeko marka la sheegayo markaad qoraysid hadday dhib kugu noqoto wixii aad soo ururisay inaad qoraal u bedeshid marka waataan hadda lahaa warbixinada lasoo ururiyaa warbixinada marka laga soo tago waxa ku xiga waxa waaye dadka inaad wax u diyaarisid oo wax u gudbisid waxaa dhexda ku jira wixii aad soo ururisay inaad maaragtay qori kartid oo qoraal u samaysan kartid inkastoo soomaalideenna inta badan wariyaasheenna ay u badan yihiin inay qoraal badan aysan samayn hadday u badato hordhaca hore inay qortaan inta kalena maaragtay hadduu tv oo kale inuu soo galo qofkii ama meesha uu joogo intuu ku diyaarsado codadkii yaryara oo ku dardarsado kadibna aad macnaha looma isticmaalo script writing scripta ugu badan oo la sameynayo aad looguma fiirsado siiba tv-yadeenna isma laha qoraalada maaragtay loo baahnaa in loo qoro tv-ga badanaa tv-ga uma baahna qoraal tiro badan wuxuu u baahan yahay waxa waaye sawirka asagaa sharaxaya inta badan in xoogaa yaryar oo lagu dardaro laakiin raadiyihii wuxuu uga duwan yahay raadiyihii wuxuu kaaga baahan yahay in wixii qofkii maadaama uusan arkaynin codkaaga keliya maqlaayo inuu maaragtay qofkii dareemo waxaas aad sheegaysid aad u sharixi kartid qaab muuqaal ahaan inuu meesha joogo kale inaad ka dhigi kartid marka si guud markaad wax qoraysid fikirkaaga qoraal inaad ku muujisaa la rabaa si fudud oo cad oo qof walba fahmi karo tusaale marar badan waxaad adeegsan kartaa inaad codkaaga kor u qaadid aad adiga laftaada isku daydid waxana aad diyaarsatay qori rabtid wax macno samaynaya ma yihiin so waa aragteen hadduu qofka kor hadalka u qaado asaga laftiisa ismaqli kara oo isfahmi kara ama qiyaasi kara codkiisa suu u dhawaaqayo ama waxa uu ku hadlaayo macnaha ay samayn karaan marka haddaad isku daydid intaadan wax qorin wixii inaad korka ka sheegtid waxaa kuu sahlanaanaysa markaa qoraalka bilowdid wixii aad sheegaysay qaabkaa u sheegaysay sida adoo qof u sheegayo kale inaad maaragtay u qortid tusaalayaal badanaan heli doonaa dadka badanaa waxaa la dhahaa markuu qofka hadlaayo wax badanaa la fahmaa maskaxdaadana hadalkuu kasoo burqanaya qoraalka marka waxaad isku daydaa inaad u ekeysiiso sidii aad sheekeynayso kale waa qodobka koowaad aad muhiimad gaar ah ay taasna leedahay intaan la gaarin inaad wax qortid xigashooyinka marka la fiiriyo qaybtan waxaan ka soo xiganay ifj diyaarinta waxaa ka mid ah in wax loo diyaariyo television in raadiyo loo diyaariyo ama videoyada gaar ahaan social media badanaa markaan u isticmaalayno inaan qoraalka ama youtube ama video facebook inaan gelino aan doonayno videogaas ugu yaraan hadalkeenna waa inuu ku jiraa xiriirin haddaanu waraysi keliya ahayn oo qofka uu soo qabtay oo uu bixinayo mar walba laakiin waa inaa ogaatid dhegaystaha raadiyaha ama daawadaha telefishinka inuusan dib ugu laaban karin qoraalka waxaa xasuustaa wargeyska haddaad akrinayso markaad akriso wixii aad fahmi weysay jumladii hore haddaad ku yara wareerto gadaala ugu noqon kartaa dibaa u eegi kartaa waa fahme markiiba waa ku ceshan kartaa laakiin radio iyo television live markay yihiin weliba iyo videoga laftiisa hadduu live yahay markii la duubo oo wax hore u baxay yihiin dabcan waa ku ceshan kartaa laakiin markuu live yahay intaba mida ku ceshan kartid ma laha radio
TV iyo videoyada badan social media loo isticmaalo so marka live ugu talagelayso barnaamijka qoraalkaaga marka waa inuu ahaadaa ama tusaale ahaan waagii hore dabcan social media ma jirin qofku wuxuu ka daawan jiray maybe online ka daawanaa xataa asagoo online ka daawanaya ku celceliskaas badan qofku waqtina way ka luminaysaa maxaa la yidhaahdaa fahamkana way ku yaraynaysaa marka qofka hadduusan soo ceshan karin waayo marka problemka hadda aan ka hadlayno oo ah qoraalkii la qoray ama oo la saaray dee qofku markuu hadlayo qoraalkii uu qortay haddii maaragtay uu noqdo mid maaragtay adag kolleyba casharadan ay ku jiri doonaan qaabka adkaanta iyo heerka adkaanta qofkii wuxuu ka fikerayaa okay waxaas ama erey culus markaa isticmaashay kale ereygaas muxuu ahaa intuu ka fikerayo wax badanaa dhaafaya marka waxaa lagula talinaa qofka qoraayo ee wariyaha ah warbixinta diyaarinaya markuu warbixinta qoraayo inuu iska ilaaliyo waxyaabaha adkeyn kara ama qofka fikir kale ku dhalin kara si uusan uga dhicin maaragtay warbixintaadii dhegeysigeeda ama daawashadeeda ama hakad uusan gelgelinino maaragtay dib ugu laabo maanta oo dhan aysan ku dhicin si uu u fahmo so marka mar walba inuu qofka ogaado in si qaldan ama loo fahmi karo ama la fahmi waayi karo haddii ereyo culus qofka uu isticmaalo inuu hadalka fududeeyo waa lagama maarmaan tan xigta waxa u qoraysa hadalka sida adigoo hadlayo oo kale qor codkaaga macnaha qor codkaaga waxaa loola jeedaa more of wataa hadda mar dhaweyd lahayn isku day sidii adigoo xafiday oo kale inaad u hadashid marka intaadan waxba qoraal bilaabin maanta dadweyne badan ayaa isku yimid waxay maaragtay ujeedkoodu ahaa in ay ka hor yimaadaan sharciyo cusub oo maaragtay dhibaato u geysanaya dalkeenna gaar ahaanna ku saabsan maaragtay dhaqan bedel wax saas oo kale marka hore inaad adiga dee qiyaastid waxaa qori lahayd hadda iska dhaadhicisid markaa qoraysidna maaragtay horumarin uu sii horumara hadalkii aad ku fikirtay raadan intaa maskaxda ku haysan lahayd kor u sheeg then waa fahmaysaa inay macno samaynayaan marka hab wada sheekaysi oo kale ah in qof aad la sheekaysanaysid oo kale u qoraysaa aad la hadlayso jumladahaaga waxaa la rabaa inay gaabnaadaan sentence kasta ha gaabnaado short ha ahaado markaa qoraalka dhamaysana dib u habayna ku samayn kartaa kor markaa u dhahdid waxaa fahmi kartaa in hadalkaaga uu saxan yahay ama maaragtay wax horumarin haddii u baahan yahay haddii kale tan xigta waxaan ka hadlaynaa sahlanaanta waxaa la rabaa inay wax walba sahlanaadaan qoraalkaaga jumlad keliya ku sheeg fikirkaaga waxaa laga wadaa tusaale haddaan rabo inaan dhaho maxaa leedaha qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho hal jumlad waaye waxaana ii sheegtay concept dhan qarax oo ma ahan wax dhacay ah kadibna waxaa laga yaabaa inaad sii raacisay meeshu ka dhacay cidda wax ku noqotay iyo wixii lamid marka jumlad ku sheeg wax walba ama idea kasta oo rabtid inaad maaragta dadka u sheegtid okay fikirkaas muxuu noqonayaa marka fikirka koowaad wuxuu noqonayaa inaad dhaho kale okay qaraxaa dhacay waxbaa dhacay waaye fikir ku saabsanaa la ii sheegay kadib haddana waxaa soo raaca in maaragtay haddana aan sheego wixii dhacay intee ka dhaceen waa fikir kale asagana waxay ka dhaceen xeebta liido markaas kadib haddana waxaa ii raaci kara inaan sheego fikir kale oo ku saabsan cidda wax ku noqotay waxaa wax ku noqday 12 qof waa jumlad kale waa marka saas inay jumladaha isku raacaan u fududaadaan aysan adkaanin maaragtay culays ahaan okay marka waxaa laga rabaa hadal cad oo nuxurka aad sheegaysid inuu warka ahaado ha ka bixin qadka sheekadaada ha isku dayin inaad maaragta xariif iska dhigto macnaha khatar ha iska dhigin si tartiiba maaragta hadalka u sheeg hadal waaweyn lagagama baahna xog aad u fara badan waxay keeni kartaa in diiradda sheekadaada ay lunto waxaa laga rabaa inaad ka dhowrsato ereyada dhawaqyada badan leh syllable macnaha ereyada kala gogo'aya marka lagu dhawaaqayo kale inaad ka dhowrsato hal erey waxaa laga yaabaa keligiis kala gogo'aya tusaale ahaan hay-adda markaad dhehaysa meeqa jeeraa ku dhawaaqda hay-adda 3 jeeraa ku dhawaaqda marka waa syllable la lahaa english ahaan marka ereyada badanaa saas u gogo'aya marka lagu dhawaaqayo inaad iska ilaalisid ku talinayaan
saxafiyiinta fikradda u leh inta badan muddo dheerna soo shaqeeyey specificity wax maaragtay cad inay noqdaan yes wixii si fudud u sameeyaa lagu dhahay marka inkastoo lagu yidhi si cad maaragtay wax u qor oo clear ah oo simple ah oo concise ah oo kooban macnaha haddana waxaa waajib ah inaad ka dhowrsato sheekadaada inay u ekaato wax guud inaad ka sheekeynayso generalizationka ayaa la diidaya marka specificity aa lagaa rabaa inaad maaragta wixii si cad u sheegto waxaan maxay ku saabsan yihiin haddaa dhahdeed oo kale maxaa la yidhahdaa magaalada muqdisho biyaheeda lama cabbi karo waa kuwa maaragtay aad u wasaqaysan oo kale waa tusaalaan isaga soo qaatay marka macnaheeda waxaa waaye magaalada muqdisho oo dhan ma biyaheeda wasaq yihiin mase si gaara xaafad gaara oo xamarweyn oo kale ama degmada maaragtay waa beri oo kale ama meel un ka mid ah so xamarweyn oo kale markaan dhahayo ayaa more specificity ah dan inaan muqdisho dhaho so markaasoo kale inay warkaaga kala cad yahay muqdisho dhan maa ka hadlaysaa mase waxaa ka hadlaysaa degmadaas gaarka ama xaafad ka mida degmo ayaa biyaheeda wasaqoobeen oon la cabbi karin saasoo kale marka in claritygaas ayadana specificity lasii raaciyo especially xaggee ka hadlaysaa gaar ahaan meesha ugu hooseysa inaad warkaaga sheegtida lagaa rabaa wax guud aysan noqon marka wax kasta wariyaasha waxaa laga rabaa xaaladdaas inay ku cabiraan context inay geliyaan mararka qaarkood ama marka la sharaxayo qof oo kale qofka lama rabo maaragtay in magac dishid oo kale tusaale waxaa ka hadli kartaa waxa uu qabto inaad sheegtid waxaasu qofkan qabtaa xaaladiisaas guuda ka hadli kartaa raadadan waxyaaba isaga magac xumo u keeni kara darajadiisa iyo badanaa telefishin oo kale hadday tahay waa lagu qoraa qoraalka in la raaciyo waa marka adigoo kale afka inaad ka sheegtid baahi keenaysa ma jirto laakiin si kale waa u sharxi kartaa una faahfaahin kartaa okay sheekada waxaa laga rabaa inaad qoraalka markaad qoraysid siday wax u kala horeeyaan aad ku sheegtid waxaa lagaa rabaa inaad hubisid sheekada bilow may leedahay dhex ma leedahay dhammaad may leedahay categorigaas inaad u qortid oo hadda tusaale qaraxaan sheegnay soomaaliya qaraxa u badan wax laga hadlo wariyaasha hadda jooga ay ka hadlaan ama haddaan dhahno oo kale madaxweyneyaashii stadeyada iyo madaxweynihii federaalka sida maalmahanba socotay ayaa golaha hogaamiye dalka waxay sameeyeen maalmahanba fadhi waday oo shirayay shirarkaasna ilaa hadda waxba kama soo bixin toosna looguma kala tegin weli waxa la cadeyna la leeyahay laakiin weli waa laismari laayahay tusaale hadalkaas yaraan rabaa inaan sheego marka hore waa inaan sheegaa marka sheekadeeda bilow may leedahay dhex may leedahay dhammaad may leedahay waa qoraalka aan qori doono qaabka aan u qori doono waa inuu meeluu ka bilowda leeyahay meel dhexe leeyahay meel dhammaadana leeyahay bilowga intuu ka bilaabana inay madaxda shirtay oo welina shir ay ku jiraan dhexda waxay ii noqon kartaa inay maalmo dhan shirkoodan uu socday ayna isku mari waayeen dhammaadkana wuxuu noqon karaa inaan dhaho kale weli wax ka soo baxay ma jiraan laakiin maalmaha la soo socdo waxaa la filayaa maaragtay inay qoraal soo saaraan tusaale ama mar kale isku soo laabtaan maadaama la isku mari waayey qaarkoodna isteedyadooda dib ugu laabteen qorshuhu wuxuu yahay in taariikh hebel la isku soo laabto so warkii aan qoray wuxuu leeyahay bilow iyo meel dhexdhexaad ah iyo meel dhammaad ah dhammaadka marka wuxuu ii noqday in la sugaayo inaan warkaas mar dambe sheegi doono oo dadkan madaxda aan ay isku imaan doonaan balse kan ay isku mari waayeen marka hadalka kala horreyntiisa ama warbixinta aad qortay kala horreynteeda saasay noqonaya inaad tilmaanto exactly waxa goortay bilowdeen meesha dhex inay lahaadaan iyo meeshay ku dhammaadeen inta okay tan xigta marka waxaan leenahay jumladda ha u qornaato sidii wax joogta ah waxaan ula jeednaa jumladaha ingiriiska yaqaan laakiin soomaaliga ma laha simple tennis waxa la dhaho ingiriiska qofkii bartay inuu adoo ka sheekeynayo wax hadda dhacayo socda
oo kala u sheegaysa ama maalin kasta dhaco kale tusaale ahaan weliba waa inay wixii israacraacsanaadaan si cadna u qoran yihiin badanaana waxa hadda jira adoo ka sheekeynayo oo kale badanaa warbaahinta degdeg ay u baahan tahay maxaa la yidhahdaa waa kala hormar warka intay isleeyihiin mar kasta maaragtay dhacdadii markaas dhacday ayuu warka badanaa ku salaysan yahay ama markaas taagan ee socota so si aad wax u gaarsiiso bartilmaameedkaaga dhegeyste daawade ama akhriye waa dadka bartilmaameedku ah dabcan qoraalkaa qortid yaa dhegeysanayo waaye yaa daawanayo ama yaa akhrin doona badanaa hadday online ay tahay waa akhriyay noqonaya ama wargeys ugu talagashay qoraalkaaga laakiin badanaa ama raadiyaa kasii daynaysaa dhegeystayaala u daynaysaa ama daawade telefishin daawanaya aad u gudbinaysaa ama video oo social media marka luqadaada waa inay waafaqsanaataa waxa hadda socda inaad ka sheekeynaysa simple tenniska badanaa waxaa waaye inaan la dhaho dagaal ayaa dhacay soo ma dhihi kartid dagaal ayaa dhacaya wax dhahaya weli maada arkin aan umaleynaa qaarkiin saxafiyiin oo idinku jiraan oo maaragtay ama soo ahaan jira ama haddaba danaynaya ama haddaba wax diyaariya so marka waa in la dhaho simple tennis lagu qoraa oo la yidhaahdaa dagaal ayaa dhacay maaragtay qaybta ingiriiskan ka hadlaa laakiin annaga soomaalideenna waxaa laga yaabaa inuu bast naga noqdo dagaalaa dhacaya ma dhahno waayo waxaan dhahnaa dagaal ayaa dhacay bast waa always waxaan nahay maaragtay reactionary wixii aan ka reacti garayna inay nahay newskeena laakiin marmar waa dhacdaa qarax meel ka dhacay basti oo kale aan u sheegnaa bastigaasna macnaha dhacdadii inay dhacday af soomaaliga ma laha dagaal ayaa dhacaya hadda oo socda badanaa oo socdadaas in la dhaho waa laga yaabaa laakiin senteniska badanaa ma dhahayo laakiin qaabka ingiriiska loo qabo mar kasta inuu simple tennis ahaado oo gaar ahaan marka maaragtay documentary ama document aa qoraysid is always based on wuxuu ku salaysan yahay in saas loo qoro sida englishka oo kale marka la fiiriyo waxaa laga rabaa inaad isku daydo inaad adeegsato jumladaha u dhisan sida subject verb iyo object waa ficil macnaha ficil sameeye ficilkii iyo qofkii ficilka lagu sameeyey saddexdaasaa maaragtay jumladaha saas inay ahaadaanayso wax tiro badan ma loo baahno tusaale jumladan hadda tusaalaha noogu qoran meesha waxaa la dhahayo kale booliska waxa waaye sameeye qofka ficilka sameeye waaye wuxuu xiray tusaale feebki waaye xiridda in qof inta la qabto la xiro ficilkii la sameeye waaye iyo maxaa la yidhahdaa 21 dhaqdhaqaaqe dadkan activist ah 21 dhaqdhaqaaqe ayaa ficilka lagu sameeyo waa iyaga dadka la xiro waa la maqlaa sooma kadib baa marka waxaa la weydiiyey sababtaa la keenay waxaa la yidhi waxaa la xiray kadib markii ay isugu soo baxeen soomaaliga meesha waa yara type error waaye waayo inglishu ahaa documentigan si degdeg ah maaragtay soomaali uga dhigay marka qaladaas daa ku aragtaan soomaaliga xaggiisa wax weyn ha u qaadanina marka kadib markay isugu soo baxeen beerta magaceeda merlion la dhaho galabnimadii sabtida kadib waxaa la raaciyey waktigii iyo faahfaahin dheeraada laakiin marka koowaad waxaa lagu qoray booliska inay xireen 21 qof jumladda waa taasa wixii kale waa faahfaahin jumlad labaad ay noqone kadib markii ay isugu soo baxeen beerta merlin galabnimadii sabtida waktina waa lagu sii raaciyey marka jumladda inay saas u fududaato laga maarmaan waaye xaggayga stag u ka yahay screenka marka maybe inay tahay laga yaabaa hadda ii gudbay marka u qor sawirada tan waxaa laga wadaa maxaa la yidhaha telefishinka marka wax qoraysid iskama qoraysid sidii raadiyaha waxaan dhahnay qofka waxaa la rabaa inuu sharaxaad ka bixiyo waxaas maaragtay tusaale inuu dhaho qol ayaan hadda soo galay waxaan kula kulmi doonaa hogaamiyaha mucaaradka qolka uu fadhiyo maadaama uu mucaarad yahay dalkiina kasoo cararay jabhad yahay qolkaas inaan sharaxaa laga rabaa in idhaahdo
waa meel yar oo maaragtay sida u dhisan mudul duur ku yaala isla markaana waardiyayaal dhowr ah ay geestaa ka taagan oo qoryo ake iyo noocaas wata gudaha markaan u galayna sharqantina inaad duutid oo la dareemo maaragtay sharqanta meesha inay duur tahay dhawaqaas uu la socdo kadib waxaan u galay hogaamiyihii mucaaradka oo halkan soo fadhiya isagoo xiran dharka noocu xiran yahay inaan ka sheekeeyo qofka aan u sawiro wixii muuqaal markay tahay waaye raadi aanan camera wadan cameradii laakiin waxaasoo dhan ayadaa issharaxaysa uma baahnid inaad dhahdid maaragtay mudul uu dhex fadhiya mudulka waa la arkaa uma baahnid inaad dhahdid shar noocaasuu xiran yahay waa la arkaa laakiin raadiha waa u baahan tahay so sawirkaas oo kamarada kusoo qabatay kamarada see wax ugu qoraysaa ayadan wuu ka duwan yahay marka daawadayaasha telefishinka marka iyo fiidiyoyada social media loo isticmaali karo way arkaan waxa maaragtay hortooda ka muuqda marka waxaa laga rabaa marka lagu dhahayo telefishinka u qor sawirada waa cajaladda ayaa u qoraysaa right to tape waxa la dhaho right to tape sawirkaas la arkaayo ha sheegin waxa uu sheegaya sawirka laakiin macnaha sheeg waxaa loo isticmaalaa hadalkaas right to tape marka qoraalka sheekada loogu dhisayo sawirada dadkuna ay daawanayaan sawirada aad soo aruuriso meelo kala duwanaa ka keenta dabcan inaad isku xirxirtid connection u samaysid waxaasoo dhan uu noqonaa hadalkaaga iyo macnaha ay leedahay in dadkan ay arkaan maaragtay guri dabaq oo dhisan oo 10 maaragtay dabaq ah marka dabaqaas hadduu magaca ku qornayn oo kale waa inaan dhahaa maaragtay dabaqan waa xarunta hay-addaas xafiiska 7 ayuu degan yahay mas-uulka maaragtay ama ay qaybta 7 ku taallaa tusaale inaan dhahno qaybta qaabilsan haddaan u koraynaa wax saas oo kale ah marka sawirkii iyo hadalkii inay issharaxaan aa la rabaa mooye in maaragtay wixii la arkaya aa sharaxdid lama rabo wax dheeraad ahna haddaa qortid sawir kale aa u baahanaysaa marka sawirada yaa kaasoo dhammaanaya always sawirka u qor marka lagu dhahay right to tape cajaladda wax u qor cajaladaas waa sawirada soo muuqanaya ee lasoo qabtay telefishinka aad uga dhib badan yahay raadiya wuxuu ku fiican yahay qoraalkaaga intuu rabo uu koobnaaday inta adiga akhrisay unbaa kuu baxayso oo way kugu filnaanaysaa laakiin telefishinka qoraalkaaga waa inuu la ekaadaa sawirada aad haysatid hadduu ka gaabto macnaheeda waxaa waaye sawiro hor leh inaad raadisid ama ku celcelisid qaarkood ay noqonaysaa celceliskaasna badanaa ma fiicna marka inaad samaysidaa lagaa rabaa muuqaal maskaxeed maskaxdaada macnaha ku sawiro dhegeystayaasha raadiyaha waxay u baahan yihiin inay warbixinta u muujiso qaybtan haddaan xoogaan soo qaadqaaday sharaxaadooda ereyada adeegsanaysid sawir muuqaal xoog badan oo toos ah kana hadlayo sheekadaada adeegso ereyo sharaxaada waa raadiya markaan ka hadlayno tusaale haddii aad tiraahdo si xaraga leh ayuu u socday ama aad dhahdo si caajisa ayuu u socday labadaba macnay samaynayaan waxaad qofka siinaysaa sawir adigoo maaragtay aan adeegsanayn wax loo yaqaano sifeeyayaasha ama adjectiveka tusaale inuu socdo weliba socod gaabisa ku socdaa noo sheegtay ama inuu si xaraga leh u soconayo laakiin markaad xataa ereyadaas isticmaalaysid sharaxaad badan yaysa kaga qaadanin kabadbadisay kaa noqonin ereyada wax sharaxayana badanaa ku isticmaal meelaha aadka muhiimka oo keliya haddaad maaragtay aad ugu celcelisid ereyada sharaxaadda ah qaar badan dadka waa kaa harayaanba ama waa ku fahmi weynaya intii ereygii hore sifaha ahaa ee aad wax ku sifaynaysay uu fahmkiisa raadinayo jaa waa ka tagtay wax kala ka hadlaysaa marka warbixinta waa ku adkaanay qofkaas marka inuu fahmo okay hadal jeediyaha siduu u hadlo oo kale hadal jeediyuhu ha hadlo haddii aad marti gelinayso tusaale barnaamij ama maaragtay waraysi aad qaadayso adiga ha lagu dareemo inaad tahay qofkii martigeliyaha ahaa macnaha inaad liidka mar walba haystid aa lagaa rabaa awoodna inaad maaragtay aadan u adeegsanin qofka la waraystaha ah tusaale su-aalahaaga markaa qoranaysidna inay noqdaan su-aalo ku salaysan qofkan nuxurkiisa qofkii inaad soo maaragtay
khibrad fiican ka haysatid oo taariikhdiisa soo bartay ayaa laga rabaa. Okay, markii waraysi aad qaadayso ha ka koobinin qofka oo hadheen haye haye maxaa tiri maaragtay qof dhegaysanaya inaad tahay codiisa kaasoo bixi. adiga naftaada ha ka hadlin badanaa markaa waraysiyada qaadaysid ha is ammaanin. shaqadaada waxay tahay oo keliya maaragtay inaad sheekada gudbisid. dareenka martida daawadayaasha iyo dhegeystayaashana badanaa khibradda iyo waxa u leedahay oo dhan adigay kugu kooban tahay, laakiin dadku waxay kaa sugayaan in maaragtay qofkaan aa u wareysatid wuxuu sheegaya in ay dhegeystaan, su-aalo muhiim ahna aad u weydiisid. Okay, dib aan usoo laabto hal mar. waa tahay markan waxaa la dhahaa fursad kale ma jirto. waxaan ula jeednaa fursad kale ma jirto. qofka warteebayaha ah ee tababaran badanaa hadduu isma macnaha dhaho dad badanaa maaragta ku daawanaya. tusaale annagoo kale stuudiya markaa keligaa ku jirtidood dad warbixin diyaarinaysa ama sii daynaysid markaa warbixin duubay sidoo kale maskaxdaada hadday ku jirto weliba liveka marka la yahaa ugu daran marka stuudiya lagu jiro lasii duubanayo wax waa silaf opka stuudiyaasha la dhaho qofka uu warbixinada kusii duubto warbixinada marka presenterka weyn uu warka toos soo jeedinayo badanaa warbixinada kale oo dhan waa duuban yihiin waxay ku jiraan barnaamij maaragtay playlistiga. marka taas marka waxaa dhacaysa qofkii marmarka qaarkood warbixintaas soo duubta in live loogu baahdo ama wax iska bedeleen oo soo bedel lagu dhaho inaad wax kasoo bedeshid oo markiiba stuudiya live u gashidna waa suuragal. so mar kasta waxay ku talinayaan dadka aqoonta leh inay saxaafadda in maaragtay aadan u fakerin in dad tiro badan ama millions ama boqolaal kun ay ku daawanayaan. u fakeray leeyihiin inta badan cidda ku daawanaysa oo keliya qof keliya maybe inay tahay sirta wax u gudbinta dhegeystayaasha. waxaa la dhahaa si kastoo ay u badan yihiin waa inaad u qortid qoraalkaaga sidii adigoo qof keliya la hadlaaya ama maaragtay qof keliya wax u qoray. wayna badanaana way ku caawinaysaa marka maskaxdaada ay ku jirto qoraalka markaa qoraysid you are talking inaan la hadlaysid oo keliya hal qof. badanaana markaa wax dhegeysanaysid waa aragta adiga laftaada qofka hadduu ku dhegeyste dadaa isticmaala inay dhahaan ama daawade qofna wuxuu ku dhahayaa daawadayaal jamcu ka dhigayaa ama maaragtay dhegeystayaal. so jamacaas badanaa waxaa ka fiican xataa qofka markuu dhegeysanayo personal dareema asaga in maaragta toos loola falgalayo markaa dhahdid daawade ama dhegeyste iyo wixii lamida. marka fursadda marka fursad kale ma jirta kor ku qoran malena si fiican uma arko inaad maskaxda gashato in dhegeyste ama daawade oo keliya uu yahay walwalka ayay kaa saaraysaa. waxay ka dhigaysaa inaad qof la sheekaysanayso kale inaad u fakertid hadafkaagu ha ahaado inaad dhegeystayaasha aad wax u sheegayso ee aadan khudbad u jeedinayn. taasna muhiim waaye. qoraalkaaga hadduu noqdoo kale inaad adiga wax ku imbos garaynayso qoraalkaaga dadkii aad maaragtay qasab wax ugu sheegayso kale uusan ahayn qoraal furfuran oo qofkii u muujinaya in maaragtay hadal kor aan looga keenin oo kale. tusaale waxaan xasuusanaa mar maaragtay qof la wareysanayo oo kale dad badan oo marmar nala soo xiriiri jiray dad aqoon laha ku jira dadka dad aan waxba aqoonina ku jiro dad dhexdhexaada ku jira. so marka adiga waxa laga rabaa mar kasta inaad heerka aad dadkan kula hadlaysid inaad u fikirtid inay yihiin dad wax kasta leh aanay ahayn kulligood wax kaa hooseeya oo kaa aqoon yar inay yihiin. boqolaal professoraa ku jiro dad mastaro badan waxa issuega ka hadlaysa ka diyaariya jiro. so marka inaad u fikirto dadkaas inaadan ka aqoon badnayn laakiin dadkoo dhan ay isugu mid yihiin adiga servicekaaga adeega u hayso uu yahay oo keliya inaad wax u soo gudbisid. fursadda u heshay inaad wax ugu hormartid inaad dhahdid maaragtay
waxaasaa dhacay aqoonna kama badnin kartina kama badnin dadkii macnaha fursadda marka farsamada ugu muhiimsan waxgaarsiinta dadweynaha waxaa waaye levelkooda inaad marka hore iska dhigtid inaad la simantaho kale inaad iska dhigtid dadka badanaa aaday uga caroodaana la dhahaa mana jecla in la isaga dhigo in laga sarreeyo oo maaragtay wax kor looga keenayo kale warbaahinta macnaheeda waa gaaridda qaybo kala duwan ee dadweynaha tahay xirfad ah inaad hesho meel u dhexaysa macnaha waxaa laga rabaa meel u dhexayso waxaa ku jira dad jaamiciyiina dad wadada xaaqa warbixintaada marka kuwaasoo dhan meel u dhexaysa inay noqoto oo qof walba oo kuwaas ka mid ah kan aqoonta leh kan darajada leh kan darajada leh kulle ay fahmi karaan okay jumladaha dhaadheer marka maxaa laga sameynaa okay mid ka mid a macallimiinta maaragtay waxaa hadlaya qofkan hoos ku qoran Paul Cleveland wuxuu ka tirsanaan jiray telefishinka ABC assignment manager dadka maaragtay warbixinada loo diro ayuu maamuli jiray wuxuu yidhi mid ka mid a macallimiinteedii dugsiga sare ayaa ii sheegay in jumladaha gaagaaban inay yihiin kuwa ugu fiican ee qoraalka loo adeegsado qoraalku waa inuu ahaadaa mid kooban oo cad marka badanaa ereyga la isticmaalay ingiliishka wuxuu ahaa concise inuu ahaado mararka qaarkood hadalkii oo concise wuxuu noqonayaa gaaban keliya maahan waa macnihii oo lasoo ururiyey inay jumladda ka koobnaato waxaa laga yaabaa haddii la furfuro jumladdaas inay noqon karto 10 line oo kale laga samayn karo laakiin ereyada soomaaliga badanaa kuma badna conceptia mararka qaarkood lama qoraayo maaragtay conceptigii laftiisa wuxuu u baahan yahay la sharaxaad gaara keligiis gooni loo sharaxo so marka badanaa jumladaha dhaadheer in la iska ilaaliyo ayaa lagu talinayaa oo kuwa gaagaaban maaragtay aad loo isticmaalo mararka qaar jumlado isku jiro oo maaragtay la yiraahdo clauses ingiriishka qofkii bartay clauseska waxaa waaye jumlad kale kusii dhex jirto mid kale kusii 3-4 jumladood oo la isdhex geliyey ayay noqon kartaa mararka qaarkood marka qaybtan bal aan isku dayno inaan fahmno qoraal warqad marka lagu qoro macno ayuu samaynayaa marka akhri lamaagana waxaa laga yaabaa inuu macno kale had started the conflict marka la dhaho kale Soomaaliya haddaan ku qiyaasno marka Ethiopia dhahday hogaamiyaha Eritrea ayaa khilaafka bilaabay so marka qoraalkan suu u qoran yahay waxaan u qaadanaynaa marka hore inay Ethiopia dhahday hogaamiyaha Eritrea jumladaas oo dhan so cidda wax eedeynaysa iyo cidda la eedeeyayba waxaa lagu fahmi karaa iyadoo hakadyada iyo astaamaha kale la geliyo meeshan meelaha ku habboon kuwaas oo la-aantood macnaha sheekada oo dhan oo isbeddel ku imaanaya tusaale hadda haddii la Ethiopia gooni loo qoro oo la geliya hakad iyo kooma iyo the conflict waa macnaha jumladdan kala dhigay oo fasiray so marka saas markii loo dhaho waxay noqonaysaa Ethiopia ayaa sheegtay oo kale hogaamiyaha Eritrea inuu bilaabay khilaafka waxaasoo dhanna sax ma aha marka haddaan u qaadano qoraalka dambe inuu sax yahay kii hadaayay kan si kale in loo qoro waay marka maxay noqonaysaa hadalka the Eritrean leader said Ethiopia had started the conflict so marka yes saas simbalkaas loo qori jiray Ethiopian leader said wuxuu sheegay Ethiopia ayaa bilowday dagaal waxaan sheegnay dhan marka yaa ugu fudud ugu sahlan inta waxaasoo dhan maaragtay la isdaba marin lahaa it is very simple in la dhaho okay qofkii wax qoraya laga hadlaya jahwareeriskaas hadda qaabka asagii qofka qoraal aqoonin noqonaya Ethiopia said the Eritrean leader started the conflict jumladaha mararka qaarkood keeni kara waaye in lagu wareero okay tanna waa kasii daran tahay jumlada la kala hormariyay jumladaha la kala hormariyay waa qayb kale aan fili doono inaad fahmaysaan tusaale mararka qaarkood haddii hadalka la kala hormariyo dhib badan uu keeni karaa tusaale haddaan dhaho kale sababtoo ah maxaa la yidhaahdaa heerkii mortgageka waa deymaha guryaha lagu iibsado heerkii mortgageka maaragtay ayaa maaragtay keenay
in guryaha gadashadooda ay badato sababtaa hoos u dhaca ku yimid heerka maaragtay walba heli karo waxaa bilaabatay marka qof walba inuu mortgage soo qaato guryo gato so maxaa batay gadashadii guryaha laakiin maxaa hoos u dhacay mortgagekii deyntii guryaha lagu gadanaya hoos u dhacay fududayntaas taas darteed marka waxay keentay in dadka guryo badan ay gataan guryihiina qaali noqdaan so hadalkaas waa saasuu isugu dhex qasan yahay marka la fasiro jumladaas waxay noqonaysaa sababtoo ah heerka deymaha guryaha lagu iibsado oo hoos u dhacay sicirkii guryaha ayaa mar kale kor u kacay haddii kale waxaa la dhihi karaa sicirka guryaha ayaa mar kale kor u kacaya hoos u dhaca deynta guryaha lagu iibsado ayaa horseeday korarka gadashada guryaha haddana waa la isku dhex qasay oo labadiiba waa la isdhex mariyay kadibna sharaxaad bixi raadada intaan ilaa because waxaa ayadoo ay ugu wacan tahay anoo dhahay simply sheeg marka hore exactly waxa dhacay badanaan iska ilaali maarata sicirka guryaha ayaa mar kale kor u kacay that's the news warka cusub kaas wahay ma ahan inaad sababtii soo hormarisid oo dhahdid sababtoo ah mortgagekii oo hoos u dhacay hadda waxa cusub waxa weeye sicirkii guryaha ayaa kor u kacay hoos u dhaca deymaha guryaha lagu iibsado ayaa horseeday korarka gadashada guryaha jumladii marka ugu saxsanayd saasay noqdo waa simplicity iyo maaragtay waxa dhacaya sidaa u kala horumarin lahayd ee saxa ahaa inaa u kala horumarisid warbaahintu waa xirfad nuxurkeeda uu yahay in aan la fahmin wax loo sharaxayo dad kale waa xirfad nuxurkeeda uu yahay in wax aanan fahmin loo sharaxo dad kale qofkan lord waa maaragtay dadka northcliff nin la dhaho lordka waa title maaragtay boqoradda ingiriiska ay bixiso isla markaana badanaa dadka ku jirana aqalka sare ay ka mid yihiin ingiriiska waana run oo wariyaasha wax kasta qasab maaha inay waa soo dersi karaan xoogaa waa maaragtay xog waa kasoo urursan karaan in yaroo ay u baahan yihiin waxaas way kasoo akrin karaan laakiin badanaa ma ahan macnaha ama dhaqaatiir ama qof dhakhtar xataa wuu noqon karaa laakiin sida loo badan yahay mararka qaarkood wax cilmi dhaqaale iyo ku saabsanaa nalaka rabaa inaan u sharaxno dadkii mararka qaar wax caafimaad dhib ku saabsanaa nalaka rabaa inaan sharaxi karno fahmi karno isla markaana aan maaragtay dadka inaan u gudbinaa nalaka rabaa waxay la tahay wixii xoogaa inaan hakado oo wixii su-aal ah iyo aan ka jawaabi doonno insha allah ama wixii maaragtay hadal qofka ku darayana waa ku dari karaa maybe around 10 daqiiqo oo kale hadii aad waa mahadsantihiin aad waa mahadsan tahay ustaad tiimka asxaabta meesha ku jiro insha allah qofkii su-aal qabo gacanta ha taagto kadibna microfonka furto insha allah maslax ku soo استاذ كورنتو السلام عليكم استاذ waxaan ku weydiinayaa waxa dhacday dadka waa inaa la sumcad dilin sidee qof wax iyadoo qofkii sameynayay aan la sumcad dilin laan moogta haddaa sheegtid intaas ceeb ugu filan moogta qof afarkaa sameeyay haddaa dhahayd saasayba ku taa moogtahay sumcaddii qofka saas wax ku gaaraan moogta institutionkii ama qofkii waxaa sameeyey marka see dhacdadii kaliya loo stabin karaa had tusaale kale haddaa kusoo qaato maalmaha waxaa warbaahinta ku jirtay jaamacadda soomaaliya qisa ka dhacday oo dad shaqaale ka mida iyo ardaydii oo wax habboon isdhex mareen marka maamulka sharcigiisa kuma jiraan laakiin haddii la xaslo soo tabi ka tirsan jaamacada ugu waaweyn waxaa laga yaabaa in si il gaara lagu fiiriyo oo la dhaho dadku ay tuhmo badan ka muujiyaan oo dad badan oo profesora meesha ku jira waxaas ay isiraadaan marka see u dhici kartaa waxaasoo kaleeto in lasoo tabiyo laftana aan la jebin waa mahadsantahay ustaad okay horta casharkan wuxuu ku saabsanaa qoraalka warbixin qoridda maxaa la yidhaahdaa warbaahinta qaybaheeda kala duwan iyo social media naftiisa social media qoraalkii naftiisiyaase waxaa laga rabaa warbixin markaad diyaarinaysid inaadan qorin qof inaadan maaragtay ku xadgudbin xadgudbidda badanaa hadda tv haddaad oo kale ama video yar aa qabanaysid ood
horta maxaa kaa soo galaya bulshada maxay u taraysaa waxaan aad samaynaysid ma inaad wax ku bedeshidaa rabtaa ma waxaa rabtaa inaad maaragtay wax ku sumcad dishid badanaa waxa objectivekaaga muxuu yahay ujeedkaaga muxuu yahay dadka qaarkood wax aan maaragtay faa'iido badan inta maaragtay maamulkii iskuulka oo kale la socodsiiyo yiraahdo waxaana dhexdiina ka socota unless maamulka laftiisa aan laga dacwoonaynin maamulka haddii laga dacwoonayo oo kale ama ardayda qaar ama faraxumeeyaan ama dhacdo saas oo kale ah waa muhiim maaragtay bulshada inay ogaato loona sheego marka qofkaas hadduu sumcad dilmaayo asagay u taallaa sababtoo falkii ku jiraa waana lagu caddayn karaa qabatid oo soo tabisid waa wax saxa oo warbaahinta sababay u samaysan tahay ah laakiin hadday noqoto in maxaa la yidhahdaa qofkaanan waxba samaynin la dhaho waxaasuu sameeyey ama tusaale hadda annaga ujeedkan kalen waxay markaa qofka madaxda ah dadka present garaynaysid oo kale baraysid tusaale haddii aa maqashay in la dhaho ilay ama maaragtay madaxey oo kale ama siyaad baro kale waxaa la dhihi jiray afey aa la dhihi jiray afweyna la dhihi jiray so inaa marka hore adiga xataa waxa laga rabaa horta weydiisid inkastoo dadka aad u isticmaalaan waxaa laga yaaba warsuuqi inuu yahay uusan ogolayn qofkan hadda adiga laakiin idaacaddaada kasii daysid warkii dadka qaar laga yaaba inaysan ogeyn adiga kusii faafisay oo maaragtay warbixintaadii qoraalkaaga ku jirto laakiin qofka inaad dhihi kartid marka hore intaadan waxba bilaabin maxaa la yidhahdaa magacaasaan maqlay in lagu dhehe magaca ogoshahayba mise uma ogolid warbaahinta qofka markaas ku sheegaya ama maaragtay ku leeyahay hadduu xanaaqa xataa waxaa maaragtay inuu horta fule maxaa la yidhi maxay ahayd wixii la dhihi jiray fule xantiis ma moogamaa la yidhi war saas oo kalaa jiray soomaaliya oraax ah so qofkan si kastoo loo caayo waa og idaacadda ka sheegi hadduu ogol yahayna wuxuu ku dhihi karaa waxaas caadi waa iska sheeg haddaa doonta waa ogahay in la dhaho meel kasta layga dhehe ama wuxuu ku dhihi karaa waa la yidhaha waa isku ogahay laakiin idaacad inuu galo uma ogoliya iga dhaho marka taasoo kale ayaa horta general ula jeednay laakiin tan su-aashaada ku saabsanna waxa waaye waxa horta ma yihiin wax ummaddii anfacaya hadday anfacayaan waxtar u leeyahay cidda maaragtay warka laga tabinayo tusaale maamule maaragtay gabar faraxumeynaayo ama gabar gacmeynaayo ka duubto kale filimkaasoo kale muhiim waaye because maamulahan haddaan hadda la qabanin dhibaato kalu geysan karaa ama waxaan uu sii wadi doonaa so ma la dhihi kara marka taas ceebayn lama dhihi karo waa xaqiiqo aad soo tabinaysa so mararkaasoo kalena waa waxa uu idaacadda ay u taagan tahay qof mas-uula hadduu maaragtay falxumo ku kacayo maaragtay caddayna u haysid waa report garayn kartaa maaragta ma aha marka taas magac dilid ma aha ama label aada mahadsantahay ustaad qofka xiga oo su-aashana weydiin doono waa cabdirasaaq axmed tiimka aanan weli maaragtay fahmin qaabka maaragtay gacanta loo soo taagto waxaad samayn kartaa qaybta hoose ee reactionka ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa kadibna raise hand aad kali ku siinaysaa marka halkan aan anagana ka arki karnaa insha allah inay gacanta ku taagan tahay su-aalaha qabtid sidoo kaleeto tiimka waxaan ku baraarujinaynaa su-aalaha ustaadka la weydiinaya insha allah inaysan aysan noqonin kuwo ka madax banaan ama ka baxsan waxaa caawa halkan aan u fadhino ama aan ku baranayn qofka xigo marka su-aashan weydiin doono insha allah wuxuu noqon doonaa cabdirasaaq axmed waa ku soco insha allah aada umahadsantahay magacaygu waa cabdirasaaq waxaan joogaa magaalada beledweyne waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo koronto su-aashaasna waxay tahay hadda wuxuu noo sharaxay habka qaybta muuqaalka ah iyo qaybta radioga ah sheekooyinka loogu sameeyo marka habka social mediaha pages kale facebookyada ama social mediaha warbaahinta digital ka shaqeeyo sidee ayagana loogu ma qaybta radio raacaya mase qaybta wuxuu raacaya tv waa mahadsan tahay horta 3 qayb aan sharaxnay waxaan dhahnay raadiyaha iyo telefishinka iyo waxaan kaloo dhahnay videoyada marka waxaan ula jeednaa qofka waa aragtay qofka social media isticmaalayo badanaa muxuu isticmaalaa ama either inuu asaga keligiisa soo fariisto oo wuxuu rabo uu sheego oo qof daldalmaayo meel fadhiya camera hor fadhiistay waayo markaas qoraalba xataa uma baahna fikirka unbuu soo qortaa uu rabo inuu ka hadlo
hadduu u bato wuxuu soo daraaseeyaa ama soo daawadaa telefishinada siiba hadda tiim waxaan aqaanaa focuskooda uu yahay wararka carabta iyo Israa'iil dhex socda Xisbullah iyo maaragtay waxaas ka hadla waxay sameeyeen jaziiro kale soo daawanayaan carabiga qofka hadduu carabi yaqaan haddii kale ingiriisku soo daawanaa iyo warbaahintan kale maskaxdu ama kusoo aruursan ama audio soo qaadana maaragtay wixii uu sheegi lahaa keligiisu marka meeshii 30 daqiiqo 20 daqiiqo soo fariisana gadaal marka waxa uga daaran ama hadda uu ku edit garaynaa fiidiyoyadii maaragtay meelihii waxyaabihii uu soo fiirsaday ama sawirro ka mid ah qayb taas waaye qofna wuxuu sameynaa wuxuu u baahan yahay fiidiyo uu soo duuba ama meel uu u baxaya warbixinuu soo aruursana sida tviyadoo kale kaasoo kale marka scripti u baahan yahay waxaan uu soo ururiyey inuu isku xirxiro cod saaro maaragtay fiidiyowgii hadduu doono live na usii geli karaa qof iska hadlayo live galayo ayadana dhib yar ma laha script badan uma baahnid tan laakiin markaan ka hadlayno waxaa markaan fiidiyoyada ka hadlayno scriptigiisa asagana waxaan dhahnay video iyo television waa isku mid marka scriptiga wax ku qoraysid sawirka wax u qoraa lagu dhaha sawirki ha sharaxin laakiin sawirka macnihiisa sharax maaragtay qofka hadduu arkaayo maaragtay niman dhalinyaro oo banooni ciyaarayo inaad dhahdeed ma aha banoonigan ilmahan halkan iyo halkan banooni ciyaarayaan laakiin inaad dhihi kartid maaragtay ujeedkay u ciyaarayaan tusaale ahaan markii ugu horreysay waaye maanta oo maaragtay dhalinyarada xaafadda isku soo baxday ama gaalkacyo kale markaad ka hadlaysid oo kale laba qaybood oo kala go'naa muddo dhalinyaradii la isku keenay ciyaara la ciyaarsiinaya laakiin dadka maxay arkaan ilmo dhalinyaradii oo banoonigii eryanayso iyo ciyaartii socoto iyo saasoo kale marka conceptiga iyo always waxaa ka hadlaya sawirka muuqda marka hadlaysid sababta uu sawirkan u dhacayo ayaa maaragtay focuskaaga uu yahay qoraalkaagana uu ku salaysnaa waa ka baxay ustaad aad u mahadsan tahay qofka xiga waa cusmaan cabdullaahi maxamed cusmaan haddaana maqasho ku soco Halo, assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته salaam Marka ustaadka Cabdiraxmaan su-aasha weydiiro waxay tahay kasoo qaad marka oo samaynaysa news reportingka oo waxa marka u guulgalaysid dadka u tilmaamaysid haa adiga dad qaar waxaa jiro oo hadaladooda mise dad waxay u barteen hadallo qaar oo macnaa caan ah inay meesha kasoo jeedaan taas waay bulshada waxay isticmaalaysa inay la isticmaalaan qofkaas sidoo asi u dhaqmay meesha ka sameynaa mise sida saxda oo weyga sharciga ka jiro mise xaafad u taalo oo isticmaalaa okay wax yar ii kala bayaani qofka awal kumuusan jirin saxaafadda may qofkan saxaafadda uu ku jiro oo ku cusbaa laakiin hadallo waxaa jira kasoo qaad qofkan wuxuu dhahaa camal waxaa meeshii oo hadalkii goobtii wax ka dhacay iyo hadalkii oo isku khaldaa oo laakiin sida macnaha saxaafadda u dhahan waxaa la isku adeegsaday hub noocaas kana dhacay meeshana xaqiiqdana meeshana ma taalo oo in badan lama hubo okay horta mid maxaa la yidhahdaa waxaadan hubin horta haba marka sheegin sawu amni ah meesha lagu reebo qofkan wuxuu sugaa marka inuu newska iyo asi oo ku hormaro sida uu soo jeediyo Aya. oo wax sababtaas waxaas uusan u sheegin camal ها wax asoo ugu soo hormaro oo newska soo jeediyo marna waxna way socdaan xaaladda way socotaa maya marka horta newska horta maxaa la dhahaa dhowr su-aalood xoogaa dhowr siyooda ay ugu dhigtay mar hadday tahay erayo maaragta la isticmaalo oo common ah oo warbaahinta isticmaasho macnay noqonay mar haddaa dhahdidna meeshii tegay uu isticmaalay oo kale waxaan la hubinuu sheegay ayadana macno kale waayo marka haddaan ku hormaro midda erayada ku celceliska ah oo warbaahinta ku celceliso la sameeyo horta erey qalad ah waxaa jiro dadka isticmaalaan oo ani badana aan dhaho waayo qasab ay tahay in la isticmaalo because tusaale ahaan waxaa ka mid ah inaad dhahdid oo kale xildhibaan maaragta ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta dil loogu geystay isagoo maraya waddada maka almukarama
tusaale haddaa dhahdid oo kale so marka dilka asaga ma la geystaa mase dilka naftiisa aba fal ah oo waxbaa la dilaa maxay idinla tahay Eh, Ustaad ku soo celi hal mar, ku soo celi. u- ustaad macnaha dilku ha aywa asagaa ficila oo waxaa la dhihi karaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu dilay halkaas. exactly taasaa sax ah laakiin dil loogu geystay hadalhaynta idaacadaha badanaa soomaaliya ka jira saas waa ereygaas loogu geystay aadaa loo isticmaalo saxna ma aha because fal aaba meesha yaallaba falkaas isticmaal dil waa fal ficil waaye ficil la geysto waaye ficilka la geysanaya marka haddii lasii geysto laba jeer wax la geystay noqonay sooma dil loogu geystay markaan dhahno marka ereygaasna aaday warbaahinta u isticmaalaan waxa oo maaragtay erey bixinta xaggeeda ah waaye oo la isaga daydo marka haddii laga baaqsan karo in laga baaqsado af soomaaliga badanaa dee dhalinyarada hadda 30 sano qaar badan oo dhasha hadda warbaahinta ka shaqaysa luqad meel looga sixi jiray ama meel looga saxa ma jirin qaarkood diibba carabi iska noqdeen qaarkood waa iska bobowsadeen waa iskaga shaqeeyaan marka so eed ma laha marka wax weyn oo hadda lagu eedo ma jirto cid saxda oo maaragtay warbaahin wax ka qortay oo bugaag ay akhristaan ama ay raacaan ama role model rasmi ahna ma jiro oo ay leeyihiin maaragtay ama qoraal ay qoreen ama meelay wax ku diyaariyeen ay ka bowsadaan taasna maaragtay way maybe tababaro noocaan oo kale zoomska oo kale dadka maaragtay khibradda leh oo kale saan oo kale day uga soo qayb galaan wax badan waa la sixi karaa ay la tahay tan laakiin ku saabsan kala hormar maaragtay warbaahintaas waxaysan sheeginna sheeg oo xataa qof xogogaal khatar iska dhigo waxaa la isku adeegsaday dabajeexyo iyo maaragtay hubab aan maaragtay ka waaweyn maxaa la hubka darandooriga u dhaca iyo maxaa la yidhahdaa haddii rabuzuu ka qayb galay iyo waxyaabahaas oo kale horta is not very important haddii noocyada hubkoo la isticmaalay inaan sheego aniga haddaan idaacad ahay ama telefishin ahay simbale waxaa muhiim ii ah dadka inaan u sheego inay wax dhaceen meeshay ka dhaceen tirada dhimashada ah badanaa lagu murmaa xataa dowladda oo kale mararka qaarkood ayadaaba kala hadashaba qaarba wax sheegaan marka adiga maxaa waxaas dhanba ugu wareereysaa weliya haddaa taa horta waxaa ku habboon okay tirooyinka meesha ka heli kartid waxaa waaye isbitaalada qolyaha ambulansooyinka waxay qaadeen oo kale inay ku sheegi karaan booliska markaas xaafadaas oo kale so tirooyinkaas inaad adi inta isku darsato midda saxda ah ee kaaga soo baxdo tusaale haddaad inta baxday aad tagtay isbitaalada waxaad dhihi kartaa ilaa hadda intaasoo meydha isbitaal hebel la keenay sababta waxaa laga yaabaa 10 isbitaal oo kalena in qaar kale la geeyey intaasoo dhaawaca maaragtay adiga simbale meelaha tagtay inaad sheegtay isbitaal hebel oon tegey waxaan ku arkay tiro intaas inta ishaada ku aragtay markasta inaad sheegtid oo xaqiiqada ah laakiin qurbahan oo kale meelahan markii la joogo tusaale ahaan aniga personally waxaan ku sigtay inaan maaragtay qarax 77 dhihi jiro bas London ku qarxi jiray aan mar raaci rabay ilaa amarkiis 1 minute intuusan qarxinaan inaan fuulaan damcay kadibna waa kasoo degay sababtoo magaalada inaan dhowr meelood oo kale qaraxyo ka dhaceen kadib waxaan dhex galay meeshii qaraxa ka dhacay oo maaragtay la 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 xiray dadkii wax ka caawiyey tirada dhimashada indhahaygaan ku arkay marka qof xamar muddo joogayoo qaraxyo badan iyo soo arkay dad oo qaraxay arkay dad maaragtay hortiisa lagu dili jiray aan ahaa marka markii aan BBC-da tagay inay way iga wareysteen inta arkaan sheegay 13 aan arkaan bas marka way ka cabsadeen 13kii waxay isdhaheen ama booliska idin qabsadaan booliska war tiro uusan sheeginna waxaa lama sheegi karo ingiriiska oo kale tiradii marka qiyaasaa laga dhigay waxaa la yidhi maaragtay ugu yaraan 8 qof inay ku dhimato ayadoo la isleeyahay dee hadhow booliska ama idin qabsadaan dhaha 13 soo xaqiijiya idinka ma aragteen marka aniga laakiin waa huway markaas waxaa dhacday marka dhowr bilood kadib inay soo saareen warbixintii dadka meesha ku dhintay 13kii lay soo caddeeyeen inay dhinteen qoladii BBC-da markii iga diidaysa waxay waa saxsanayd aniga intaa ka imid ahay markaa waa saxsanayd hadda leediin yo ma garatay
bas marka waxaan ula jeedaa mararka qaarkood waa qaldanaan kartaa sanaan kartaa laakiin ogow dadka qaara la qaadi karaa ani laakiin waxaan ku roonaa tiradaas u sheegay because qaraxa markuu dhacayana waa arkaya 1 minute markuu baska socday oo aan kor ka daawanayo ayuu hal mar qarxay iyo markaan tagayo qof laga qaaday meeshii ma laha marka waxay imaadeen qolada emergency-ga inay dad qaadaan bilaabeen 15 daqiiqo kadib waayo magaalada meel kasta waa xirnayd baabuurtii jaamkii wixii oo dhan so always muhiim waaye marka in maaragtay falfalaadkan ayaa noo falfalaada ma garan hal su'aal ma ku darsan karaa haye kasoo qaad markaa investigation tahay camal warii dambaare mise wixii waa dhaceen kasoo qaad inaad kasoo xushatid qolada oo bisha cas camal mise qolo oo waxaas loogu talagalay emergency ka jirto oo tiraday kuu sheegtay eeda kuu sheegtay inaad qaadid mise mararka qaar waxaa jirta baraha bulshada iyo goobaha dagaalada Ukraine hadda markuu dhacay meelaha laga soo xurinayo sida telegramyada oo eeg ay leeyihiin oo dowladda ay leeyihiin qolo Malaysia waxaa dhacaysa marka meel ka mid ah inay dagaal ka dhaco dhimashadan aan laga wareey laakiin tirada oo iyadoo safan inaad ka tirsatid oo warbaahinta ma banaanay inaad meeshaas aad ka sheegtid mise waa hoos u dhigay igu celi wax yaraan fiirinayo igu celi adu xitaa markaa wariye investigation tahay camal mise wariye oo meel dhib ka dhacay mise dagaalaa dhacay dagaalkaas marka meel oo gacantaada ay gaari karta baa haye gacantaada gaari karta maxaa ka wadaa macnaha adi inaad tagtid oo war macnaha kasoo samaysid marka warbaahinada qaar waxaa arkay inay soo macnaha tii kasoo qaataan macnaha tusaale aan dhihnay oo macnaha wax oo muujinayo inuu dagaalkaas meesha macnaha ciidanka dhib ku gaaray telegramyada iyo pages ay kasoo xustaan kadib waxay usoo gudbiyeen dadka ee tusaan xidhan halaana saana waxaa soo dhigay meel hebel meeshaas goobaha telegramka aad macnaha videoyo lisweydaarsanaya oo noqda camal ma banaantaa marka in oo qofka makaadi tahay oo cabsanaysid nafsi ahaan mise inaad soo adigana soo jeediso hadday ahaadaan qole cadow aad iyo aad waa mahadsan tahay ustaad erey waxaa jira maaragtay la dhaho meeshaas familiar words erey maaragtay la yaqaano af soomaaliga maaragtay saxaafadda in loo isticmaalo horta 27 bilaabatay ma badnayn isticmaalkiisa wixii 27 ka dambeeyey ayuu ahaa saxaafaddana dabcan ma aqaano 80 meelahaas weliba 80 in saxaafadda la furaa umalaynaa jaamacadii kuliyadda saxaafadda marka erey bixin Soomaali ah oo saxaafadda gaar u ahayd horta marnaba uma malaynayo inay jirto hadday jirtayna koleyba weli ma arkin ingiliishkoo kale hadda marka waxaa lagugu taga boqolaal erey oo isku macnaha uu leeyahay marka ereyadaas isku macnaha waa kala waaweyn waa kala adag yihiin qaarna waa academic qaar waa terminology qaarna maaragtay waa hadal iska caadiyo suuqi ah marka badanaa ereyada warbaahinta loo isticmaalo waa kuwa dhexe oo cid kasta fahmi karto tusaale ereyadan hadda aan isticmaalayno ingiliishka waxa waaye ereyga la yidhaahdo cut out oo ugu horeeya meeshan ereyada ku qoran waxa waaye to exercise labadaas erey marka haddii exercise in la sameeyo macnaha la aalamiinteeyo waaye kee isticmaali lahayd haddaa marka saxaafadan waa su-aal maaragta furan qof gacantaa taaga waa ka jawaabo bal Soomaali ahaan macnaha labadaas erey qof ingiriis yaqaanaa weliba doorbidi lahaa cut out ama to exercise haddaa warbaahin u isticmaalaysa kee isticmaali ama ereyada ku xiga destroy ama obliterate against adoo raba inaa isticmaashid antagonistic to talkative to loquacious truthful to veracious macnaha waa maaragtay macnaha exercise oo kale qof walbaa fahmi karo xataa dadaan ingiliis aqoon way fahmi karaan
destroy marka la dhaho waa erey common ah oo dadka dhan isticmaalaan. Obliterate haddii la dhaho waa weli baabi'in, destruction, laakiin maaragtay badanaa dadka ma yaqaanin. Waa ereyo waaweyn oo maaragtay meelo kale loo isticmaalo. Against antagonistic to marka la dhaho ereyo waaweyn waaye, hataa more academic iyo terminology ah. So against yaa habboon in la isticmaalo. Ka kore destroy, kan ugu koreeyo cut out, saas oo kale. Truthful marka la dhaho run badan ama veracious. Cancel ama abrogate marka la dhaho cancel ka habboon. Truthful ah habboon. Talkative ah habboon. Poverty in a penury marka la dhaho, penurigaas lama yaqaano, povertygaasaan naqaanaa. Inaa ereygaas oo kale isticmaasho. Marka haddaa isticmaasho erey aysan dhegeystayaasha ama daawadayaasha markiiba aysan fahmi karin, intay la hardamayaan fahamka ereygaas ama macnihiisii, xogtii ka dambeysa oo dhan way dhaafaysaa qofkaas. Marka qof kaa harayuu noqonayaa warbixinta aan waxba kala socon. Okay, dhegeysiga sahlan aan ku soo qaadano qaybtanna. Nin la yiraahdo Irvin E. Vang oo ah warbaahiye Maraykan ah, wuxuu cilmi baaris ku sameeyey waxa qoraalada ka dhiga warbaahineed, qaar si fudud loo fahmo iyo qaar kalena inay adkaato in la fahmo. Waxa sababa ayuu ka sheekeeyey, baaritaan ku sameeyey. Kadibna wuxuu soo saaray qaacido ah inta badan jumladda waxay ka kooban tahay marka la isku dardaro ereyada. Fikradiisa waxay ahayd in dhammaan hakashada ama syllableska inta jeer oo jumladaas ay hakakanayso marka la isku daro syllablekeeda say u kakacayso marka lagu dhawaaqayo. Wixii ka soo baxa hadday 20 ka badan yihiin tiradaas, oo ereyadii jumladda oo dhan oo mid mid xaraf xaraf la isugu daray iyo gooni la isugu daray, inta jeeray istaagayaan. Tusaale ahaan, dugsiga sare ee Yusuf Al-Kooneyn wuxuu ahaa mid heer sare ah oo kala daanda. Dugsiga waa istaagay, sare ee Yusuf 2 jeer istaagay, 3 adiga. waxaa laga yaabaa inay noqoto 5 6 xaraf xaraf marka la isugu daro jumladii. Marka hadday noqoto kale intaasoo la isku daray labadooda la kala jaray, marka 20 erey hadday ka bataan, wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay in dib loogu laabto jumladaas oo la saxo, sababtoo hadhow waxaa adkaanaya fahamka. So simply in la fududeeyo waayo oo si fudud loo fahmi karo laga dhigo. waa gartay. Okay, tan xigta wixii hadda aan ka hadlayno kale waaye. marka la dhaho jumladda ingiriiska aan akrinaya, the British based human rights organization Christian Solidarity Worldwide is accusing the Sudanese government of using out-of-load chemical weapons and breaking the ceasefire in the long-running civil war with the South in an offensive to clear civilians from oil fields where the first supplies of food are beginning to flow. Af Soomaaligii waxaan u qornay marka hay-adda Britishka ah ee Christian Solidarity Worldwide ayaa ku eedeysay dowladda Suudaan in ay hub sharci darraa isticmaashay, ayna jebisay xabad joojintii dagaalka sokeeye ee muddada badan ka socday dalka Suudaan, iyadoo qaaday, weli jumladii waa furan tahay ma dhammaan, iyadoo qaaday weerar ay ku sifaynayso dadka rayidka ah ee degan ceelasha shidaalka laga qodo, halkaas oo saliidda cayriin laga bilaabay in laga soo saaro. So jumladda waa dheer tahay, so fahamkeeda marka aad u adkaanayo. qaybtan kale dib markii loo qoray wuxuu u qoray the Sudanese government has been accused of using banned chemical weapons and breaking the ceasefire in the long-running civil war with the South. So jumladana saxan, sababtoo ah waxa waaye inkastoo qaab oo loo qoray maaragtay wixii la dhihi jiray passive, cidda wax samaysay la soo hormariyey oo the Sudanese government ah, laakiin waxa ay samaysay darteeda loo eedeeyey waaye oo ay ciqaab maaragtay inay kala kulanto ay tahay. Kadibna waxaa warkaas oo dhan soo saaray Human Rights Organization oo British ah, magaciisa saas yahay, wuxuuna sheegay in Khartoum maaragtay ay bilowday
weerar ay dadka maaragtay kaga bixinayso meelaha oo shidaalka laga qoday dib marka loo qoray af soomaaliga muxuu noqday dowladda suudaan ayaa lagu eedeeyey in hubka kiimikada ee mamnuuca ah ay adeegsatay ayna jebisay xabad joojintii dagaalka sokeeye ee muddada dheer ka socday koonfurta hay-adda xuquuqda aadanaha ee Britishka ah ee Christian Solidarity Worldwide ayaa sheegtay in xukuumadda Khartoum ay qaaday weerar xoog leh oo ay ku nadiifinayso dadka rayidka ah ee degan ee gobolka shidaalka laga qodo oo ay wax soo saar shidaal hadda ka bilaabeen soo jumladan hadda labay u kala baxday awal hal xabay isku ahayd kan laakiin laba qaybood loo kala saaro oo clear ah is more appropriate marka tana ka habboon tii hore marka sidaa aragto hadalkan aadka u dheer wuxuu sii adkaynayaa badanaa in si fudud loo fahmo oo adkaanaysaa in la fahmo badanaa qofka dherarkaasa ka hor istaagaya in uu si fudud u dhegeysto warkaagii waayo jumladdii waxaa tidhi markaa soo bilowday ilaa waa isku qasta adigoo is too long so inay intaan ka gaaban tahay ayaa muhiim ah oo aad lagama maarmaan u ah kadib waxaan fiirinaynaa sheekada waxaa la yidhaahday waxaa la rabaa inaad xiise u yeeshid qofka wariyaha mar walba wuxuu haystaa xog maaragtay ay dadweynaha u baahan yihiin xogtaas marka waa shaqada uu soo qabtay oo maaragtay ama uu soo baaray meel inta loo diray warbixin ka soo ururiyey warbixintaas uu soo ururiyey waxaa la rabaa inuu dadweynihii u sheego qaabkee marka ugu sheegaya waa muhiimadda wixii waa cusub yihiin waa wax muhiima waa wax maaragtay relevant ah saas darteed ay u rabaan dadweynuhu inay tusaale idaacadda waxay ka sugayaan madaxda dalka isugu timid ee maaragtay stediyada kulli madaxdoodii xamar la isugu keenay waxay ka shirayaan waxay yihiin wax maaragtay waxay u arkaan inay muhiim tahay because waa hogaamiyaashii dalka dabcan inay wax cusub ka sugayaan waxaas cusubna inay noqdaan ay rabaan obviously noqonayaan wax maaragtay relevant ah oo macnaha na quseeya oo dadweynaha quseeya saas darteed qofkii wariyaha loo diray waa la sugayaa warkiisa laakiin dadweynaha inkastoo xogtaas ay u baahan yihiin haddana adduunku waa isbedelay xogtaas meel kastay ka heli karaan hadda weliba shaksiyaada xataa soo ururin kara been ha u badnaadaan shaksiyaadka waxa ku dardaraan laakiin still newski qaybay ka hayaan ayaga laftooda telefonay dirdirayaan dad laga yaabay gudaha ku jira xataa inay la hadlaan qaabka marka hordhow waxaa la isku haystaa usoo bandhigaysa qaabkaas waxaa la rabaa inuu noqdo qaab xiise leh isla markaana maaragtay more entertaining ah oo qofkii haysan kara oo uu maaragtay aad u fahmi karo mararka qaarkood dadka inay u sheegaana laga rabaa maaragtay dadka oo warbaahinta ah waxa ay maqlaan rabaan inay maqlaan tusaale hadda social media siba youtube-yada iyo ragga fadhiista waxa ay dadka u sheegaan waxaa waaye waxa ay rabaan inay maqlaan qof walbana dadkiisa gaarka iyo audiencegiisa gaarka ah uu leeyahay sababtoo waxa aan rabo haddaan reer qansax ahay ama haddaan maaragtay waxaa laga yaabaa inay kala duwan tahay oo aanan rabin war rasmi ah ama idaacad rasmi ah so taasoo saameynaysa mar walba laakiin waxaa laga rabaa adiga wixii xiise inaa u yeeshid qaab xiise leh inaa u sheegid xiisahaas marka uu kala duwanaan karaa qaybtan marka waxaan sameyn intaas haddaan ku ekeyno qoraalada waxaan eegi karnaa qoraal kale oo ku saabsanaa ustaadi qaybtan kuusoo diraayo ma heli karnaa oo hore ها أستاذ قيبته إيشك مقع intaan raadinayo waxaan samayn karnaa lets maxaa la yidhahdaa wixii su-aalaha way sii weydiin kartaan استاذي haye
Ustaad magacayga Cabdinaasir waa jaamacadda ummadda dhigtaa saxaafadda ka bartaa haddana waxaan ka shaqeeyaa radio haddana maasha allah ustaad marka aad iyo aad u mahadsan tahay waqtigaa noo hurtay sidaa wax noogu bixinaysa barnaamijkan aad iyo aad kaaga mahadcelinaa su-aal oo guudna waa waday laakiin cashirkaa weli socdo laakiin su-aashan ciwaankaana su-aalkaa weydiina waa weydiin kartaa marka ustaadi sheekada marka hato meesha ugu muhiimsan waaye aniga aan aad u jeclahay inaan horumariyo meeshan waaye dhibaato badan wariyaasha ay ku qabaan because warkaaga warbixintaada inay xiise yeelato waxyaabo badanaa u baahan tahay marka tusaale sometimes warkaaga adoo inaa xiise u yeesha aartid mise warbixintaada adoo xiise inaa u yeesha aartid waxyaabo oo dheeraad ah oo khaladaad mise sheeg ama sheeg oo been ah inaa kusoo dirtid aa laga yaab karaa inaa xiise u yeesha aartaa marka inaa awoodda ku dirtid marka sometimes sheeg beenta iyo sheeg waxyaabaha xiisaha leh sidee lagu keeni karaa ka wada se waxyaabaha xiisa leh inaa abuuraa rabaa warbixinteeda mid xiise leh inaa ka dhigaa rabaa maxaa sameyn karaa oo la gudboon waa xiise waa uga dhigi kartaa qoraalka fakarkaaga saa u fakaraysid inaad aad uga fakartid mid horta waa samayn kartaa qaladna ma ahan tusaale ciwaankaaga oo kale inuu soo jiidasho leeyahay haddaa u fakaraysid sidii social media person laakiin ciwaankiina hadhow markii lasii gudagalo inuusan been sheegayn laga rabaa hadduu been sheegayo dramatizationa ku samaysay laakiin qoraalka xiise wuxuu u yeelan karaa horta badanaa annaga dokumentiyo badanaa jiri karaa documentaries badan ma samayno uma badna macnaha warbaahinteena waxay isaga badan tahay ganacsi hadda youtuberska ama dadka influencerska youtuberska aad u yaqaana horta sida baasha xiise loogu yeelo gaar ahaan magac titleka guud markay noqoto hadda ninaan saaxiibna oo kale ciwaanadiisa waxaa ka mid a tusaale wuxuu ku bilaaba wow uu ku bilaaba wow uu ku leeyahay wow maxaa la yidhahdaa iiraan oo duqaysay oo gantaalihii ugu badnaa maanta ku riday oo kale macnaha waawgaas isaga wuxuu la jeedaa inuu wixii xiise u yeelo dadka waaw muxuu u dhacay qofkan intay isdhahaan waa farsamo qof walba marka qof walba iskiisu uga fakeri karaa waxa uu isleeyahay waa u fiican yahin laakiin idaacad rasmiga markaa ka shaqaynaysid waaw iyo waxaas oo kale inaad qortid waa unethicalba oo ma lagu ogolo mana fiicno marka waa inaad ka fakertid adoon been sheegaynin warbixintaadii sidaa uga dhigi lahayd mid xiise leh tusaale meesha ugu fiicneed oo qofka aad wareysanaysid oo kale ama dadkaa soo wareysatay oo kale hadalka ugu muhiimsan muxuu ahaa ama wixii aad soo baartay arrinta ugu xiisaha badan maxay ahayd inaad dib u fiirisid waqti ha kugu qaadato hadday rabto waxyaabahaas aa marka kor keentid ama hordhaca keentid ama maaragtay ciwaanka aa ka dhigatid inaan si fiican u sharaxaan umalayna se ustaad aad iyo aad waa mahadsantaa waa si fiican ku fahmay masha allah waa mahadsantaa ustaad horna wad bes markan inta noo dhiman waxaan degdeg ku fiirinaynaa maba badnaba 20 daqiiqa camal aa noo hartay farsamada wareysiyada wareysi see loo qaadaa marka farsamada wareysiyada haddaan dhahno warbaahinta markay bilaabanaysay waxaa la dhahaa horta wax wareysi la dhaho ma jiri jirin wararka wareysi lagama soo diyaarin jirin wakaaladaha wararka wixii ay soo qorqoraan ay meelaha kasoo ururiyaan unbaa maaragtay la qaadan jiray warbixino cod ah oo maaragtay cid lasoo wareystay wareysiga muhiim looma arki jirin walaalkan ay soo baxay marka sidee haddaba wareysiga muhiim ugu noqday raadiyaha iyo telefishinka iyo gaar ahaan waddanka UK uu ka bilowday wareysiga ugu horreeyey waa la wada arkaa soo maaha si fiican ustaadaan ku soco marka wareysiga wuxuu muhiim u yeeshay markii koowaad dokumentariyaal la bilaabay intaan maaragtay interviewada wareysiga la bilaabin dokumentariyadaasaa marka qasab waxay noqotay in dadka inta loo tago la weydiiyo dee waxa markaas la baarayo ma laga hadlaayo saasuu wareysi ku bilowday marka sanadkii 1936
nin la yiraahdo Richard Dimbley oo BBC-da odayaashii waaweynaa oo ka shaqeynaya ka mid ahaa wuxuu soo jeediyey BBC-da inaysan ku tiirsanaanin wixii hadda ka dambeeya wakaaladaha wararkooda ayaga ay weriyaal samaystaan warbixinada u soo dira waa 1936 waagaasaa marka la bilaabay in weriyaal la sameeyo oo warbixinada meelaha laga raadiyo tabaha waraysiga marka haddaan ka hadalno qofka maxaa laga rabaa waraysi hadduu rabo inuu qaado oo qof madaxa ballansado tallaabada ugu horeyso horta in waktiga uu ballansanayo wakti ku habboon uu yahay inuu hubsado oo wakti hore uu ballansado qofkii marka uu ciddu wareysanayo inuu soo kala xusho cid kasta yuusan iska wareysanin laakiin uu dhaho dee yaa qofba qof ka muhiimsan yahay ama warkaas uu quseeyo ama relevant u ah arrinta laga hadlayo inuu ahaado qofka martida inuu tixgeliyaa laga yaaba waqtigooda uu ilaaliyo maaragtay markay u yimaadaan martisooro dee biyo iyo shaah iyo waxay u baahan yihiin siiyo mar walbana inuu diyaar ahaado maaragtay su-aalihiisii iyo qaabka usoo labisanayay iyo waxaasoo dhan inay diyaar u yihiin maxaa laga rabaa inuu weydiiyo su-aalo originaal ah macnaha su-aalo dee qofkan tv kale inta soo fiirsaday su-aalay weydiiyeen oo kale haddaan ku celiyo ama raadiyo kale qofkan su-aalay weydiiyeen macnaha inay originaal ii ahaadaan su-aalahayga laga rabaa aan diyaarsado bilowga hore xitaa qofka waa iskala kaftami kartaa tusaale waxaa weydiin kartaa buug ma ka qortay arrimahan oo kale ama ma ka qori kartaa sheekadaada oo kale wixii lamid ah iska kaftan waxaad duubaysid oo sii daynaysid ma ahan marka kale inaad maaragtay dhagaha aad amahaysaa ama si fiican aad u dhegaysatid markaa su-aalaha weydiinaysid ha ka jeejeesan wax kale ha ku mashquulin su-aasha soo socota ha ka fikirin dhegeyso qofka si fiican u dhegeyso wax badan oo cusub aa kaaga kordhi kara kaaga soo bixi kara ciwaanka ama ujeedka marka horeba ha u qabanayso waraysiga ha ahaado mid habboon hadafna maaragtay rasmi ah maxaa u wareysanaysaa qofkan inaad dadka xog ka siiso wasaaradda arrimaha gudaha sharciyo badan way soo rogtay inuu qofkan noo sharaxayo kale sharaxaadaasna laga heli karo su-aalo adagna la weydiin karo in maaragtay su-aalaha jawaabtooda ha iyo maya ay tahay lagu jawaabi karo inaan la weydiinin tusaale haddaa qofka dhexdeeda oo kale ma jeceshahay biyo inaan kuu keeno kale haddaa dhahdo qofka ha uu dhaha ama maya ku dhaha soo su-aalo noocaas oo kale inaad maaragtay aadan weydiinin ha iyo maya hadduuba qof ku jawaabi karo faraha ka qaadi sababtoo ah waxba soo ma kordhinayso jawaabtiisa okay waxaa laga maarmaan ah waraysiga suu xiisho u yeesho inuu u ekaadaa wada sheekaysi wanaagsan oo kale sida laba qof oo wada sheekaysanaysa waa marka waraysiga si caadi aad qofka ka wareysanaysid okay qodobadan oo dhan waa laga maarmaan ayagana dhegeyso jawaabaha qofka aad wareysanaysid ha kasii fakarin su-aalaha kuu dhimanaya aad weydiin doonto waayo hadalkiisa ku dhaafaya intaad su-aalahaas ka fakaraysid isku day inaad fahamto hadalkiisa oo aad la socoto dareenka qofka aad wareysanaysid la sheekayso ha dareemo inaad dhegeysanaysid ka dhexgal markii ay muhiim noqoto oo keliya ama haddii sii socoshada sheekada uu ka dhexgalkaaga muhiim u yahay tusaale asagoo sheekada wato wax muhiima ama angal muhiima ka heshay ka dhexgal su-aal weydii si maaragtay meeshaas aad rabtid inuu aado u aado maaragtay u wajaho dhinacaas ugu leh ta kale waraysiga siyaasiyiinta waa ka duwan yahay wuxuu u baahan karaa habab kale in loo maro asaga maxaa noqon kara marka hababkaas horta si degan ugala dood hadallada aan raadka lahayn hadduu hadal been abuur ah isku dayo inuu kuu sheego kala dood oo ku qabsoo dhahe maya saas ma aha annaga saas ma ogin maxaa la yidhahdaa xisbigaasaa maaragtay arrintaas idinku eedeeyey wararkaan helaynana waxay tahay in maaragtay warkaas uu sugan yahay dadka madaxda waa la arkay ayagoo hawshada inaad macnaha wixii uu difaaci maago been ku difaaci maago inaad la qabsan kartid laga rabaa oo su-aalo ka weydiin kartid waa in waraysiga dheelitirnaadaa iyadoo ay ku xiran tahay ilaa xadka waraysi bixiyuhu
uu diyaar u yahay inuu ilaashado sumcaddiisa oo aanu xadka ka baxin balse sida guud waa in jawaabtiisa koowaad la dhegeystaa mar kasta inaad dhegeystid waaye laakiin markaa su-aal adag weydii sidoo kale jawaabta ha dhammaystirto ha ka dhex gelin muran ha ka dhigin baashi laakiin weli hadduu ka jawaabi waayo waa ku noqon kartaa su-aasha waa ku celin kartaa hadda ka hor wareysi waxaa jiray BBC laga sii daynayay nin magaciisa hadda ma wada dhamaystiray Jeremy something aan lahay Jeremy Paxman inuu ahaa umaleynaa waxaa ku dhacday dhowr iyo 10 su-aalood oo the same su-aal ah inuu hadda ka hor weydiiyey nin madaxa oo madaxda Ingiriiska ka mid ah inuu mucaarad ahaa umaleynaa marka ninkiina uu jawaabtii lagu soo celinaa Boris Johnson inuu ahaa aan filayo wixii lagu soo celinaya marka ilaa aakhirka wareysiga maaragta saas uu kusoo gabagaboodo lagu kala kacay marka wareysiga mar kasta caadi marka inuu adiga inaad maaragta qeylisana lama rabo qofkii inuu ka xanaaqana lama rabo laakiin intaad doontaa ku celcelin kartaa su-aasha haddii qofka uu ka jawaabayo oo aragto inuu ka leexleexanayo marka si ka duwan wareysiga aan siyaasadda ahayn wariyuhu waa in uu su-aalo weydiiyaa siyaasiga kadibna ka dalbadaa inuu su-aalahaas ka jawaabo marka wataan hadda sheegayna intaad doontaa su-aasha ku celcelin kartaa ilaa laga jawaabo wariyuhu waa inuu hayaa xogta qofka uu wareysanayo ahaadaa ama arrinta laga hadlayo xogteeda inuu ishuuga u fahamsan yahay waxaa laga rabaa qofka wariyaha wax wareysanaya badanaa inuu ahaado qof furfuran balse adkaanta ma ahan maaragtay su-aalaha marka la weydiinaya in adagtaa la rabaa dabeecadihiisa marka inay wanaagsan yihiin la rabaa qofka laakiin adkaanta inay faham uu ku ahaado su-aasha sidaan hadda dhahayn oo kale inuu ku celcelin karo uusan ka harin ilaa ujeedkiisa uu ka gaaro natiijada uu filayo marka intaas ayaan qaybtan kusoo gabagabeynaynaa labadaas qayb oo casharadeenna ahaayeen caawo wixii su-aal iyo sharaxaad iyo fakar ah waa soo dhaweynaynaa inta su-aasha qabtana maaragtay mid aan u siin doonaa fursadaha gacanta ay soo taagtaan insha allah waqti yaraan siinaynaa ilaa waxaan qaadanaynaa marka ilaa 10 daqiiqo su-aalaha ugu horeeyaan qaadanaynaa kadib insha allah waa soo gabagabeynaynaa hadduu ilaahay idmo qofka noogu horeeya wuxuu noqon doonaa cusmaan cabdulaahi maxamed oo qofka ugu horeeya gacanta u taagan ah cusmaan codkaaga furo kadib insha allah saadka su-aasha doonta weydii أستاذ هذا ما سنتهي إني مقلع رجينا سفيان ويا مقعي واسمع عبد الله محمد وحنا هاي وريه كهول قلا ورباهين الصوماليات جارها ورباهين اللي رادو أرلادي ميديا إن عارف أنا أستاذ كويديو سؤال وربحنا نقول مراي وربحنا مركل الديارنا أيو dadku waxay isticmaalaan laba qayb ama laba qaab ay isticmaalaan dad waxay sameeyaan in warbixinta hordhac ay u sameeyaan qofku wixii maanta uu soo qabanayo intuu soo jarjaro uu hordhac yar u sameeyo ama qofna wuxuu isticmaalaa in warbixintu ama wuxuu soo diyaariyo toos u gudagalo asigoona hordhac waxba u sameynin ka warbaahin ahaan kee u fiican in warbixinta hordhac loo sameeyo ama in warbixinta sideeda lagu gudagalo oo sideeda lagu sharxo aad waa mahadsantahay su-aashaydu waa intaa okay mid aan uga jawaabaya su-aalaha horta qaabka iyo styleka waxay ku xiran tahay horta warbaahinta u shaqaynaysid annagoo kale BBC-da markaan u shaqayn jirnay inkastoo dadka qaar say rabaan ay isaga isticmaali jireen horta warbixinta waxaa la sameeyaa wariyaha markuu noo soo diro wuxuu ka hor macnaha wixii oo dhan uu sharaxa maxaa la yidhaahdaa hordhiciisii uu isaga soo samaystay wariyaha marmar marka waxaa la sameeyay qofka wahsanayo kale oo xarunta jooga oo London jooga oo kale tusaale ahaan oo maanta ama presenterka ama producerka ah laba mid uu sameeyaa wixii oo dhan inuu inta dhageysto oo asaga maaragtay warbixin kooban annaga summary Q aan dhihi jirnay Q-ga waxa waaye hordhaca hore oo kooban oo laba paragraph camal ah oo aad leedahay qofna marka warbixinta wariyaha soo diro dhan uu dhageysana qofna wuxuu sameynayaa wariyihii intuu dhageysto macnaha markuu dhageysto kan hore markuu dhageysto wuxuu ka qoranaa warbixin kooban summary uu ka soo qaadanaya summary-gaas wuxuu ka dhiganayaa marka wariye hebel noo soo diru leeyahay marka warbixintii lasoo diro lasoo duubo waxba kama taaban hordhac fiican uu sameeyey iskumana dhacayaan wariyaha hordhiciisa iyo kan uu asaga sameeyey
waayo kan uu sameeyey waa wixii oo dhan uu soo koobo uu dhageystay. qofka labaadna wuxuu sameynaya 3 waaye. qofka labaad wuxuu sameynaya wixii wariyaha hordhaca ka dhigtuu qoranaa, waxaasuu sheegaya wariyihiina kama jaraayo, isla warbixintii wixii uu hadda ii sheegay oo ku soo celinaa wariyihiina. kaas marka ma habboona horta. kan saddexaadna wuxuu sameynayaa warbixinta qaybta hore oo wariyaha intuu dhageysto ka tuuraa. waa 3 maxaan dhahay, mid warbixintii oo dhan uu dhageysanayaa, asagaa iskiis u qoranaya warbixin aan habboon oo wixii oo dhan soo koobaya, wariyihii hordhiciisana isku dhacaynin. midna hordhici wariyuhu jaranaya, meel dhexe uu ka bilaaba marka wariyuhu. midna warbixintii soo qoraya, warbixintii koobneed oo hordhac ahayd oo wariyaha soo qortuu qorana, isla haddana kama jaraayo warbixintii. marka aniga kuwaas oo dhan waxaa igala habboon qofka inta maaragtay wixiisoo dhan uu dhageysto. tusaale wariye maxamed macalimi waan soo diray warbixin, inaan qabto 3 daqiiqo meelahaas waaye warbixinta aan wada dhageysto, kadibna aan ka qorto aniga qoraal kooban oo maaragtay wixii dhan isoo koobaya oo aan khilaafaynin hordhaca maaragtay wariyaha. habkaasaa ugu habboon 3daas markii maaragtay aad isbarbar dhigto. aad u mahadsan tahay xasan. qofka noo xiga insha allah wuxuu noqon doonaa dhuux xaanshe. dhuux xaanshe haddana maqlayso kamarada codka furo ku socod su-aashaadana. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ محمد هاي أستاذ كرنتون والسلام عليكم. مقعد روح على حاشواي إن أستاذ waxaan rabaa inaan weydiiyo horta marka hore wuu mahadsan yahay sharaf garaab markiisa ahaato traininka quruxda badan markaas uu noogu soo jeediyo waqtigiisa quruxda badan oo noo siiyey. Ustaadka waxaan rabaa inaan weydiiyo warbaahinta haatan jirta iyo warbaahintii hore markii la isbarbar dhigo tusaale haddaan soo qaato sheeko samaynta markii la yiraahdo gabar ku jirta xeryaha qaxootiga ayaa la dhibaateeyey ama kufsi loo geystay. xilligii hore waxaan arki jirnay ama warbaahinta kusoo baranay in qofkaas magaciisa la qariyo, haddii TV laga soo doomayana wejigiisa la qariyo, magaciisana la qariyo si hadhowdii dhibaato noloshiisa inta ka dhibna aysan dhibaatoodin. haatana waxaan aragnaa warbaahinta caadna casriga ama social mediaha in qofkii la dhibaateeyey ee dhibka loo geystay wejigiisa lasoo bandhigo. marka ustaadka waxaan weydiinayaa warbaahintii hore iyo tan hadda casriga ah ee social mediaha waa maxay sheeko samayn markii la yiraahdo dhibaatada ama maaragtay saameynta ay ku yeeranayso warbaahinta iyo dhalinyarada? والله horta waxaan adduunka dhan horta ka jiraan laba mid waayo warbaahintii rasmiga ahayd hore iyo adiga kuwa dambe u kala saartay. saas hadda haddii loo raaco because tii hore weli waa jirta hadda oo maaragtay like social media kusoo kordhay waa iska garab jiraan oo tii hore weli ma baabi'in. so marka aan dhahno maybe adeegsiga social media siba hadda telegram kaas oo kala waxa aan maaragtay dadka loo ogolayn soo bandhiga. marka social media inta badan cidda adeegsata horta ma ahan inkastoo warbaahintan oo rasmiga laftirkeeda ay samaysteen janalo oo social media waxa ay geliyaan, laakiin waxay kaga fiican yihiin kuwa shakhsiyaadka leeyihiin. shakhsiyaadka tababar uma haystaan warbaahineed ama anshaxeed. qofka hadduu warbaahin tababar u haysto oo kale wuu is ilaalinayo, wuu ogyahay waxa saxa ah iyo waxaan saxa ahayn. laakiin mar kasta markaa fiiriso shuruucda saxaafadda adduunkao dhanba ma ogolo qof maaragtay in lagu xadgudbo. qofka hadduusan qaangaar ahayn horta sideedaba waaba ugu daran tahay. hataa qofka qaangaarka ah gabar la kufsaday oo laakiin qaangaar ah hadday ayada fasaxdo oo maaragtay gabdho badan hadda adduunka hadda bilaabay ayagoo la kufsaday inay kambay gareeyaan oo ay sheegaan in la kufsaday oo ay ku doodaan maaragtay si maaragtay ay wax u bedelaan. waayo gabar kas haddii la kufsaday shib iska dhacdo yaan la sheegin. marka laakiin qofka qaangaar ah oo go-aanka iskiis u gaaray waayo kaas. laakiin gabadha hadday rabto ha qaangaarto oo la kufsado oo aan rabin in la sheego, inuu qof ama ehel ahaado ama qof jidka maraya ahaado uu wax ka soo duubo totally waa bridge. xorriyadeedii maaragtay la jebiyey, xaqay lahayd lagu xadgudbay. marka waxay ila tahay marka saas inay marka qalad tahay. social mediahana Soomaaliya san ka warhayo sharciyo hadda kama jiraan, laakiin waxaa jira qorshayaal ah
in maaragtay xakameyn loo soo saaray adduunka meelo badan la soo saaray in maaragtay la xakameeyo loona sheego dadka de waxay rabaan inaysan soo bandhigin hadda telegramkaas oo kale dadkii go'go'ay oo qaraxyada ku dhintay iyo waxoodii la soo saaraa qof midi la geliyaa la soo saaraa marka bulshada waxyaabahaas oo kale sharciyo ka qaban kara in lagu fakerayo ila tahay marka labada warbaahinood maaragtay mid sax maba ahaba oo cid la xisaabtamayso iyo shaksiya iska soo geliyey tii horena dee waa lala xisaabtamayaa waxay og yihiin media lowgii iyo maaragtay xataa in maaragtay sharaftooda ilaashanayaan waayo maaragtay shuruudo iyo principles jiro oo madhabaha lagu dhaqo warbaahinta kuwaas ay ilaaliyaan inta badan laakiin dadkan waa dad dee qof camera iska wato iska soo duubay waxaan hadduu meel geliyey iyo wax kale dhibkay keenaysa aan warba u hayninba so dhibkaasaa jira marka in waxaa loo baahan yahay marka qoladan laftooda at least wax lagu xakameyn kara lahaa qofkan waxa insha Allah wuxuu noqonayaa cabdifataax tabaarak cabdifataax tabaarak haday maqlis insha Allah codka furo وسو insha Allah ايه cabdifataax cabdifataax ma maqashaa haddaana maqasho codka furo okay استاذي استاذ السلام عليكم وكم مقلا استاذ كرنت وك سلام اولا سؤال قبا waxay tahay waxaan weydiinayaa ustaadka si fiican ma maqla ustaadi si fiican ku maqan si fiican markii qof wareysi la yeelanayo waxaa tiraahday ha weydiin su'aalo kooban oo jawaabahooda ha iyo mid ku dhamaanayo marka su'aalahaas in la weydiiyo negative badan wax ka imaanaya malaynaya su'aalaha ha iyo mayada maya wax negative maba lahaba ha mayu ku leeyahay qof so adigay marka waqti wax horta qof wareysi laga qaado BBC intaan joogo waxaa ugu darnaa koobnaanta marka la dhaho daahir rayaale kahin oo madaxweynihii hore maxaa la yidhahda somaliland adoo isdhahayo daqiiqado badanaa ka duubi doontaa 15 su'aalood ka badan weydiiyey waxaa laga yaabaa 2 daqiiqo bas inaa ka heshid maaragtay su'aalo aad u kooban ayuu jawaabo kooban ku siinaa marka waxaa loola jeedaa waxba qofkii kama helaysid jawaab kama helaysid because adaaba u fududaysayba oo tiri biyaha ma cabtaa mise ha waa cabaa ku dhihi karaa haddii qofka ugu fiicana waa cabaa ku raacina ha bas ku leeyahay ama maya uu ku leeyahay magacaaga ma yahay axmed marka lagu dhaho karo hadee yes wuu yahay ustaadi war kale ma ku furan moogta ha waxaa kuu furan inaad dhahdid ha iyo inaad dhahdid maya so saas ha u weydiin so magacaaga muxuu yahay haddaan ku dhaho laakiin maxay igu jawaabe hebel cabdiqaadir cabdullahi misal aniga jawaabada kaa hela magacan kaa hela marka saas waa wax loo dhahayo marka si kale u farsamee hadday xataa su-aasha waxaa rabtid ha iyo maya ay tahay si kale u bedel sida hadda aan dhahnay oo kale magacaaga muxuu yahay laakiin haddaan ku dhaho magacaaga saas miya obvious confirmation oo caddaynaan raadinayo qofka inuu caddeeyo already waa aqaanaa magac ustaadi marka sidoo kale hadallada oo qofka awareysanaydo kale in hadallada ay kasoo dhex gasho kale مثلا asoo jawaab ku siinayo ama hadal isku xiran ku wada ina adiga aad interrupted ku sameeyo kale aydan maxay saameyn ku yeelanaysaa horta haddii warka hadalkaas uu wato uu yahay dee hadal meel u socda meeshaasna ay kuu muuqato in news making ay tahay faraha ka qaade laakiin haddii hadal iska socdo oo macno darro oo dee meel aadan rabinna u socda inaad ka soo celisid waayo oo meeshaa u soo leexaysid macnaha waxaa la jeedaa meeshaa rabtid su-aasha haddii aysan macno ay sameynin inuu sii wado waa ka dhex gelaa maahan meeshaas u marayaan ka hakinaa su-aal ku habboon aan ku sii hagaya meeshaan rabaan weydiin karaa markaas aad u mahadsantahay cabdifataax
qofka xiga insha Allah wuxuu noqonayaa Maslax Cabdiraxmaan. Insha Allah su'aalahana hala soo koobo. Waqtigu aad noo kulaalaya dartiis Maslax haddaa i maqasho codka furo insha maqla Allah. ustaad. Okay. Kusoo. Ustaad waxaa ku weydiinayaa ustaadku maadaama cawado kaliya waxaa la rabaa inaa ku wada fasaxdid waqti badan nagu baxsha. Ustaadu waxaa ku weydiinayaa isha il qarsoon markaa xog ka soo xigatid ilaa xad imise laga xaq u leedahay inaad qarisid macnaha. Tusaalaha qofaa war qarsoodiyu kuu sheegay wuxuu ku dhahay in magaciga la sheego in la xuso ma rabaane. Marka adiga waxaa warbaahinta ka baahisay qofkii marka waxa kuu qabsanaysa dowladda kuu qabsanaysa. Marka amase institution wax laga sheego kaleeto waa maxkamad kula tagaya oo kale. Marka markaas xaq ma u leedahay inaad sheegtid oo kaleeto. Waxa kaloo ku weydiinaya ustaadu waxaa dhahday dadka waa in lagu yeero magaca raalli ka yihiin. Tusaale haddii jiraan institution ama urur aan sharci ka ahayn waddankaas markaas aad wax ka duwanaysa ka waran magaca dowladda ugu yeertay u bixisay miya macnaha ugu yeere mise asaga magacu isku yaqaan mise caqligal tahay in dowladda wax ay mamnuucday iyadoo magac ugu wanqasho soo iyada lafteedu caqli darro ma kula muuqataa adi waxaan waa mamnuuc magacaasna waa leeyahay macnaha magac ama markaas lagu xumaynayo amase mararka qaar ba hataa cilmi ahaan aan ku qumanaanay. Midda kaleeto dadka adi maadaama news aad raadinaysid iyo saameyn iyo bulshada wax dhibaalkeedii wax faa'iidadeedii ururkaas sharci darrada warbaahinta fursad ma u siina mikrofoonka inay la wadaagaan ayagu waxay ku doodayaan ma u siina. Mise intaasaa qaba su'aal insha Allah. horta tan dambe haddaan ka jawaabo tii hore waaba ilowday waxna mana qoranaynin laakiin adaa xusuusin doona midaan dambe badanaa waxaa waaye warbaahinta sharcigeedu suu yahay sharciga warbaahinta waxaa waaye in horta waxaa ku xukuma marka dowladda waddankaas ka jirta markaas waayo ayadaa sharci ah ayadaa adduunka aqoonsan yahay haddaad doontid ma raacaysid sida ay ugu yeer ku dhahday adiga wixii dhexdhexaad kula ah oo dembina aan kuu keenina horta samaynaysaa tusaale haddii dee xarako haddii la dhaho kale waa iska urur maxaa la dhahaa magacoodii caadiga ah iyo xaraka haddaa isticmaashidoo kale xarakada maaragtay qoladaas wax ayagana waxuma dhimayso dowladdiina dee ma ku dhihi karta dee maxaa magacaas u isticmaashay laakiin marka la raaciyo oo kale ereyga mujaahidiin waxaa qiraysaa maaragtay in dee dad saxan ay yihiin marka ayagana taasna dembi ay kugu noqon kartaa so marka adaa lagaa rabaa see xeero maaragtay ilka ku nabad galaan xeerana loo xigtaa adaa marka lagaa rabaa labada dhinacba saa uga dhex shaqaysan lahayd inaad maaragta samayso tan ku saabsaneeda umaleyn su-aashii hore in macnaha oo il qarsoodiya wax ka soo xigatay marka adiga lagu qabsado xigashada waxa waaye horta aakhirka waxaa laga yaabaa inaad ku qasbanaatid inaad cid un u sheegto tusaale maamulahaaga oo kale waa u sheegi kartaa hadday meel xun kula gaarto ama adiga in lagu xiri rabo ay noqoto ama maaragtay waayo warkan in salkiisa markasta la helo lagama maarmaan waayo caddayntiisa la raadiyo tusaale ahaan dhalinyaro badan oo soomaali oo waxaa jiray soo caddayn waaye loo xiray xataa maaragtay ilo oo qarsoodiyahan ka soo xigta warkan inta dheheen aakhirkina caddayn waayo oo la iska xiray laakiin marka ugu dambeysa intii maaragta adkeysan karto inaad adkeysatid waayo warka haddaa hubtid inuu sax ahaa qofka kuu sheegayna sax ahaa oo ilaahay kugu ogyahay mararka qaarkood dad aan maaragtay dadka qofka wareysanaysa laftiisa been kuu sheegi kara wayna dhacday dad warar beenbeena maaragtay inta sameeyeen meel maaragtay loo raaca la waayey markii dambe laakiin aakhirka qofka madaxda ku ah haddii dacwadda aad u xumaato
waa u sheegi kartaa asagana wuu ballan qaadaya inuusan cidna u gudbin asagana laftiisa laga rabaa inuu difaaco because idaacaddiisiya qofkan uu ka hadlay ilaalintaas adiga waxa ugu sheegaysaa un inaad u xaqiijisid waxaan inay run yihiin iyo si uu asaga kuu rumaysto in qofkan uu jiro oo qof jira yahay waa marka waxaa laga rabaa maamulihii inuu ku difaaco warka waa jiraa ninka anaa og weriyahaygana waa ogyahay inuu dhihi karo ku difaaci karo iyo meesha kaloo u sheegi kartidna waxaa waaye maxkamad haddii lagula tago oo kale lagu dacweynayo warkii meel sal iyo raad loo waayo kale inaa maxkamadda judgeka dhihi kartid warka uu jiraa qofkaas waa inuu qofka maaragtay laakiin asaga xataa maaragtay sharciga waxaa waaye inuusan sheegi karin oo qofkaasaan la qabsan karin so marka ilaa xad waa qarin kartaa marka keliyoo sheegi kartidna sida kulleyba marka hore oo maaragtay sharciyada iyo waxaasna loo baray saasay ahayd in maxkamadda aa u sheegi kartid isla markaana aa u sheegi kartid ururka sharci darrada fariintiisa in la tabiyo ma banaanta wallahi innaga oo kale BBC markaan joogno oo kale nooma banaanayn inkastoo mararka qaarkood maaragtay wareysi haddii laga qaado waa in fasax laga soo qaataa madaxda ugu sarreysa warbaahinta oo kale wixiina ay yihiin waa wareysan kartaa laakiin ma sii dayn kartid hanjabaad tusaale hadduu sii daynayo oo qalqal waddanka gelinaysa oo kale hadduu dhahayo ka waran madaxtooyadan weerari doonaa hub noocaasa iyo ciidan noocaasaan ku weeraraynaa taariikh hebel aan geli doonaa warkaasoo kale ma sii dayn kartaa maya war maaragtay laakiin waa laga yaabaa inaad maaragtay xogtaas oo kale meelaha maaragtay wadamada ammaanka ah ama idaacadaha qaarkood inay la wadaagaan dowladda ay dhahaan warkaana qoladan sheegayaan laakiin idaacadda kama sii dayn karaan because amniga waddanka ay qalqal gelinayaan inshallah isku dir ahati sidoo kale aad iyo aad ustaad aad umahadsan tahay qofka ugu dambeeya kusoo gabagabeyneynaa kadib barnaamijkeena toosaan isaga gabagabeyneynaa qofka ugu dambeeya waa cabdinaasir xasan haddaa maqasho codka furo insha allah ku soco dhammaan bahda sodoma oo barnaamijka taabagelinayso ustaad koronto dhammaantiin aadaan ii salaamaya asxaabta dhammaan dhegeysanayso in lee maqlaa rajeynaa si fiican anigu sheeg su-aalihii aditani horena maraaye kasoo galay su-aal weydiiyey su-aalihii gadaal aa u dhiganaa dhahay su-aalo badan aa wataa inkastoo lambarkiisa maxaa inka noola reeba jeclaadan su-aale iyo talooyin badan aa weydiisaneen maadaama weriyanaan qofkaas kastoo aa ku dayatidoo wax badan kula wadaago aragtidiisa iyo aad u wanaagsanta taasna waa codsan lahay laakiin su-aalahan ku badinayo laba su-aala ka dhiganaa 5 su-aal camal qaba laakiin laba su-aala ka dhiganaa su-aalaha kaleetan inaa emailkiisa inaa markaa helna kadib inaa aala wadaagi doonaa su-aasheeda koowaad dhinaca wareysiga waaye dhinaca wareysiga dhibaatada ka taagan waxaa waaye qofka weriyaha dhibaatada haysta waxaa waaye maxaa xal u ah dadka xilalka haayo oo rabin in la weydiiyo su-aale aan loo sheegin tusaale wareysigaaga waxaa idhahda waa inuu xiise yeeshtaa wareysiga sida oo xiise u yeeshto waxaa la rabaa inaa su-aalihiga qofka aala wadaagin marka dhibaatada ka taagan dalka soomaaliya waxaa kamid a dadka markaa su-aalaha weydiinaysid wareysi qofka aala samaynaysid wuxuu ku leeyahay su-aalaha iisoo dir 5 su-aal ama 6 su-aal ama 7 su-aal ugu talagashay su-aalahaas iisoo diro ku dhaca kabacdin marka su-aalaha already wuu yaqaanaa su-aalihii sida orab uu kaaga jawaabi doonaa laakiin qofka haddaa su-aalaha ku gedisid warbixin wareysi xiise leh oo qurux badan kasoo bixi doona su-aalo uuna ogeyn haddaa qofka weydiisid marka dhibaatadaas jirta sidee xal loogu heli karaa tan labaadna su-aashayga labaad warbixinta khusaysaa warbixin diyaarinta maxaa talo ahaan oo sii lahayd si aan u sameyno warbixin macno leh oon xiise leh su-aashaasna waxaa jeclaa lahaa inaa kusoo gabagabeeyo aad iyo aad umaadsanta ustaadi waxyaabaha kaleeto fariimihii kaleetana inaa emailkaaga mise whatsappkaaga hadii noo wareegtay aa kulasii wadaagi doonaa aad iyo aad umahadsantiin dhammaan waa mahadsantahay cabdinaasir horta tan nambarkii magacay casharadanna waa laidinla soo wadaagi doonaa sodma academy sodma academy hadda waxaan ku ballanay inaan casharo badan bixin doono marka marar badanaan is arki doonaa haddii alla idmo oo casharo sodma academy ah kala socon kartaan aan diyaarinayna insha allah su-aalihii si kooban haddaa maaragtay uga hadlo tan ku saabsan qoraalka waa fududahay oo insha allah
casharo kalena waa kasoo diyaarin doonaa isla markaana waxaan sameynaynaa wixii tala ah waa soo gudbin doonaa casharadii hadda aan akrinay keliyaaba kugu filnaan kara qoraalka in qofka uu ku wanaagsanaado markuu ku wanaagsanaadana uu meel sare gaari karo insha allah wixii dheeraad ah marka iyo su-aalo ahna insha allah casharada kale ku kulmi doonaan ka qaadanaynaa tii ugu horreysay marka nood ma haysanin marka hadda kusoo celisa ustaad taas waxay ahayd sheeg dadka oo wareysiga qof wareysiga laga qaadayo inuu su-aalaha oo kuu khasbo inaad qofka su-aalaha marka u sheegtid su-aalaha yes waa wax aad u badan waaye arrin aad u dhacdo waaye dadkii maaragtay ama cabsi waxay ka baqayeen inay hadal ka fakado wayna dhacdaa maalmahan weliba aad u soo badatay soomaalidana hadda weliba mas-uuliyiinta dadka ah oo kale laga yaabee aniga hadda nin wasiirahoo aan islahaa xataa meeshan istanbul mar aan tagno shirka socday wareysi ka qaad gabadha asaga uu ogolaadee gabadha xoghaynta ahayd mar dambe is aragno weliba qof aan isnaqaana ahaydoo aan islaa ayadaaba kuu fududaynayso ayadii markaan u sheegay abedel asagana wuxuu yidhi diyaar ahaya wuxuu soo istaagtayba su-aalaha soo gudbi su-aalo ma kusoo gudbinayaan ku dhahay kadib aan fikero waxaan iri su-aalo ma kusoo gudbinayo wareysi ma rabi camal waaye maxaa leedahay haye waxaan iri generally waxa ay ku saabsan yihiin aan kuusoo gudbinayo marka tusaale ahaan amnigaan kaa wareysanayo o kale siyaasaddan kaa wareysanayo o kale qofka inaad dhihi kartid waxaan kaa wareysanayaa maaragtay ganacsiga hadduu wasiir ganacsiga waxaas yahay maxaa leedahaa dhinacaasaa kasoo geli kartaa si kooban waxaa u sheegi kartaa subjectiga mawduucyadaasaan kaa wareysano so hadhow markay imaado marka mawduucii su-aal rasmiya maada u gudbinin haddii uu ku adkaysto su-aalo rasmiya oo wax kale aaday weydiin karin ken dee wareysigaas inaad iska dhaaftid wax ka habboon ma laha waayo wax kaaga soo kordhaya ma laha qofki waa ku diyaar garoobaa saa adigaba sheegtay diyaar garowgaasna wuxuu keenaa dee waxaan xiise lahayn oo isku sii diyaariya inay imaadaan waa kala fiican yihiin qofka su-aasha xataa markuu ku turtid inuu ku naxay xataa in la dareemi karo oo maaragtay waxuuse filayn camal ay noqotay intaas xataa reactionkaas wixii barnaamijku kusii qurxina uu sii gala marka waxay la tahay su-aalo guud ah loo gudbiyaa markaas oo kale si maaragtay exactly haddaa u gudbis su-aalaha rasmiga wareysiga kaa dhimanayo muhiimna ma ah inaad iska daysidaa kuu dhaamo waa mahadsan tahay هذا ما سنتين دمان waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena soo gaarnay dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijka nagala qayb galay siduu ustaadka noo sheegay ustaadkana sidoo kale aad u mahadsan yahay sidoo ustaadka noo sheegay waxaan u jiri doonaa barnaamijyo kaleeto oo tiro badan oo isxigi doono waxaan bilaabi doonaa hadduu ilaahay karaan noqdo koorsooyin oo bilaabi doonaa oo la xiriira saxaafadda oo qaarkooda soconayaan dhowr bilood 3 bilood ilaa 6 bilood socon doonaan insha Allah hadduu ilaahay karaan noqdo ciddii danaynayso way nala soo xiriiri karaan waxaan rabaa marka ugu dambeyn inaan ustaadka u mahadceliyo ustaad Cabdiraxmaan oo waqti noo soo huray asagoo weliba safar ah oo maaragtay isdhahay yani dhalinyarada Soomaaliyeed ee saxaafadda ku jira khibradaada ugu faa'iiday aad u mahadsantahay ustaad waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga waxaan rajeynaynaa dhalinyarada kasoo qayb gashay saxafiyiinta iyo dhalinyarada danaynaysa saxaafadda ee isugu jira inay ka wada faa'iideen barnaamijkan aadan u mahadsantihiin insha Allah wixii kaleeto xog dheeri ah waxaan iskala soconaynaa WhatsApp-ka iskala socon doonaa barnaamijkeena halkaas oo nagu xiran yahay dhammaantiin aad u mahadsantihiin saas soo dhawaada midda kale ciddii oo danaynaysa inay shahaado barnaamijkan ay ka qaadato way nala soo xiriiri karaan insha Allah WhatsApp-ka nagala soo xiriiri karaan marka tiimka kale inta baxdana hala gaarsiin insha Allah aad u mahadsantihiin insha Allah barnaamijka meesha nagu xiran yahay ustaad حبيبي mahadsan ustaad